dadkuna xamdiye bajoogo xamar wega daari maayo xadruntii nagama guurin xanuunkii maanilaawin ninkay xiisaynayo xasuuq damba yeelimayo anagu xamadooni mayno xumaana u geysan mayno shakii laba dowladoodiyo cudud baa naga dhexeeya bismillaahi araxmaani araxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa mareegaha farshaxan kuna soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeennii dharaarihii tilmaanaa iyo qaybtiisii 22aad waana soo diyaarintii baahda mareegaha farshaxan iskudubaridkii iyo daadiyiintii anigoo cabsalaan cismaan marjeex abu hureyra mas'aladeedu waxay taagan tahay waa wax ma noqonaa isagoo dib aynu noqonaa waa kula kasi taagan tahay ma noqonaa dadka dhinac ka raacnaa dalkaasi siduu u qayban lahaa wadaantii laga hadli lahaa dhibaatada maanta joogta anigu uma haysto hebel iyo hebel baa ka jooga iyo hebel iyo hebel la dhaliye ilaa iyo maantanu calamka qaadanay dhibaatadeena way soo taxnay dhibaatada maanta taagani waa dhibaato isu soo biirsanaysay in ka badan 3 sannadood isu soo biirsanaysay ayaa dhibaatada maanta taagani tahay iyo qalindaar ma waaye maantana abdeeqow wax dibuqiibaa jira diilka aan la qayanaday dhagaa saaran lagu daday babaadnimada kama aha dagan mahsanaatiye wixii laga dagaalamay waxu dooriyaan jiray anigana dacdurankii gacmahaygu diilmee weli dawliskaygii dirri buu ku dhacaya dalcaduna ma dheeree midaakaba dareen qabin inuu day ka maqan yahay ayaa doona lagu karin dul baa meel ka xidhan weli godolooladiinuga door bay ku leedahay digdig iyo mutihiisiiyo dulka xaadis mooye bal si daawo loo helo darsa eelka laba odhan barnaamijkeenna maantu dhegaystayaal wuxuu gaar u yahay laba dhacdo oo guusha ay soo hooyeen ay ka mid yihiin sababaha keenay in maanta si nabadgelyo ah loogu noolaado dalkan jamhuuriyadda somalilan waa dhacdadii dilka toogashada ah lagu xukumay dhallinyaradii 7 ahaa iyo gargaarkii ay u fidiyeen guulaystayaashii diyaaradda afduubay labadaasi dhacdana waxay ku xardhan yihiin sooyaalka gugii 1984 iyada oo ay maantana ku beegan tahay 30 guuradii ka soo wareegtay dhacdada hiilka iyo hooda loogu fidiyey ardayda oo ahayd afduubkii diyaaraddii Somali Airline ee bishii Noofembar 24 1984 الرحيم أنا يوسف محمد عيسى وحان ربا عاوة إنان في دياردي لافت بي فقال بقول نفريس بيتنكي وحيابه كدن بي هي مرحلة به حلقة الضيغة يدي حلقة لحني وحو حرقة يقو وبلامي إليه اللحاد فقال بقول نفريس بيتنكي waxaa nagu jiray hal macallin oo ahaa cali xasan aadan cali banfas oo isagu markaa ahaana qolooyinkii suugaanta waxaa kaloo isna nagu jiray nin dhalinyaro oo shicib ahaa marna baayac mushtar ahaa oo cabdi dhamac cabdi la yidhaahdo oo markii dambana dawladdii siyaad barre ay dishay maalin ay ahayd dadka agbaca la qaadi jiray agbacna waa la keeni jiray hadiyo jeerna dadka waktiyada casarkii oo kale ayaa dadka la keeni jiray ama la qaadi jiray gool fiida ayaa qabta la fogay dabeedna maqsinba laysugu geeyey ayaa dadkii ku jiray laga saaro laysugu geeyey dadkii kale marka saana loo keenay 2 nin oo waliba nin aada u weyn oo maktiga xanuunsanayay uu ahaa marka labada nin waxay kala hayeen allah naxariistee nin la odhan jiray koofiyad deele oo ganacsada ahaa oo waliba adhayla ahaa saan jecelahay iyo ilaa naxariisteen ninkii cabdi indha deega la odhan jiray iyaga ayaa markaa noo sheegay in wixii bugco ka dhacay in 40 qof lagu toogtay bugco iyaguna ay kasoo hareen 40 qof la toogtay mid baan kuu sheegaya faadobaygii nala xukumay dilka waxaan odhan jirnay afweyne ma 7 iyadoo kasoo jeeda magaalada Hargeysa ama gobolka Waqooyi Galbeed buu toogan doona
wallahi haddii toogtaynu inayadii u dhici oo lagu kacay horta maalintaasa noogu dambeysay inaan nidhahnaba 7deenu tooganaya oo iskuuleeda waayo 40 qof ayuu ku toogtay Burco oo naloo sheegay maalintaa inuu toogtay 40 marka wax badan runtii ayuu nooga sheekeeyey odayga kale koofid uu xanuunsanayay in hadal badan buu hay waliba se naloo sheegay in ay dhakhtarka kala soo baxeen oo dhakhtarka jiifay ayuu ahaa laakiin cabdi oo kale yama buu waqtigaa joogay wadankuu yimi marka wax badan dagaalka buugaha soo dhacay sidoo socdayba uu cabdan nooga sheekeeyey ilaa wadan xariiste waxaa xilligaa jiray ururo dhowr ah oo ardaydu ku muujinayeen dareenkooda halgameede waxaanu Yuusuf Maxamed Ciise yiri isaga oo magacda qaarkoodina la wadaagaya annaga ururkayagu waxaa la oran jiray Somali Students Movement saga ayaa u horeeyay waxaanu sameynay dabayaaqadii 1980 bishii November iyaguna waxaa jiray ururo kale oo ardaydu ay leeyihiin oo aan waxba markaa iyaguna naga dambeeynin ururada marka ilaa 3 urur baan hadda xasuustaa mid waxaa la oran jiray kulmiye oo waxaa kamid ahaa Ismaaciil Maxamed Jaamac iyo Daldal waxaa kamid ahaa Cali Yuusuf waxaa kamid ahaa Saleebaan Cifro waxaa kamid ahaa Maxamuud Cabdi Faraska Cad urur kale ayaa jiray isna magaciisa aan si fiican imika u xasuusan laakiin Axmed Sheekh Ibrahim Sheekh Cumar ay kamid ahaayeen Kanadi Maxamed Baashe Sheekh Cali aan waxa kale oo aan jecelahay Xuseen Beergeel ninka la yiraahdo inuu ku jiray waxa kale oo isna jiray urur kale oo la oran jiray 909 oo ay kamid ahaayeen Xasan Cismaan Cumar iyo Cumar Daacad Maxamuud Itop Saciid Daahir Jaamac Ilyas Qasa Faarax Safiya Haashim Madar waxa kale oo isna ku jiray Maxamed Xasan Baaruud oo jundi la oran jiray wuxuu galay jundi markaa ay sanamta iyaga oo markaa hawlgal ka fulinaya Hargeysa uu dagaal ku qabsaday xaafadaha biyo dhacayga sare halkaana ay markaa ay kula dagaalamayeen askartii markaa jundi halkaasi ayuu ku dhintay ilaahay naxariistay waxaan jecelahay ahayd 1985 aakhirkiisii inay jecelahay xilligaasi inta ay xasuustaa waa laga yaabaa inay ururo kalena jireen laakiin inta aan xasuustaa waa kuwaas wadankii la oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa wuxuu aasaasay ama salka u dhigay shirkadii diyaaradaha ee Somali Airlines shaqaalihii ugu horeeyay ee lagu aasaasay waxaa kamid ahaa sarkaal sare Duuliye Cabdi Maxamed Rodol duuliyaha oo arinta uga waramayay wariye Cabsalaan Ibraahim Herari ayaa yiri duulimaadada waxaan bilaabay kulkii aan ardayda horta Muqdisho meesha la yahay aan ka bilaabay 1963 أوائل كون يسأل بقولي أفريل إحنا Germany ما متقنا Lufthansa Airline Germany وحنو كسو graduate جرون كون يسأل بقول يشني لهذنك مركا commercial co-pilots بانو هين عن قبل Somali Airline كون أغسطس كون يسأل بقول يشني لهذنك كل هذا وحن كشري جروب كيجو هرية أساسي عشان لو أساسي Somali Airline fikradana waxa ka dambeeyay Mareykanka iyo Talyaaniga iyo Jarmalka Somali Airlines asaaskeedii anigu waxaan joogay meesha la yiraahdo Germany Bremen oo Lufthansa arday baan ahayn laakiin Somali Airlines saddexdii DC3 ugu horeeyay waxa siiyay Mareykanka dadka qaarkood C47 bay leeyahay waa DC3 baa leeyahay waa saddexda diyaaradood ee Somali Airlines lagu aasasay DC3 da Mareykanka siiyay Jarmalku si civil aviation loo sameeyo waxay u qaadeen dhowr iyo 450 arday bay ayaan ku ay qaadeen adigu 15 pilots ah dhowr iyo 30 air traffic controller iyo niman kale oo markii dambe mechanics noqday Talyaaniguna waxay markaa bilaabeen international airport Muqdisho inay sameeyaan marka fikradan Somali Airlines saddexda wadan ayaa isugu tagay diyaaradii lagu bilaabay Mareykanka marka diyaarad ilaa 8 ruux qaaday oo markay degaysana ma garanaysaa tailwind bay lahaydoo de waxay way taagan tahay oo marka laba ijino ma garanaysaa Brighton Wintia iyo propellers de Havilland ay yiraahdaan bay lahayd waxaan ka baxay school kan Sykes Thompson baa la oran jiray Axmed Gure termiidinkii marka sheekh baan secondary galay ma dhamaysan marka halkan u baan laga qaaday oo bal iska soo fiiriyo waxa la doonayo marka gawaari aan la siiyona lagu qaaday taanka markaan u galin way English speaking people bala doonay dawladdaasna waa dawladdii markaas weeyaan Cabdirasaaq
marka inta iyadaba waxaan noqonay reer waqooyi nimankii lagu aasaasay meesha. sida uu sheegay duuliye cabdi maxamed rodol taariikhduna qirayso shaqaalihii ugu horreeyey ee suurtageliyey in jamhuuriyaddii soomaaliya yeelato diyaarad waxay dhammaantood ka soo jeedeen waddanka iminka ah jamhuuriyadda somalilan. hase yeeshee hagardaamada iyo dhibaatada ay reer somalilan kala kulmeen dowladdii jamhuuriyaddii soomaaliya iyo shantii soomaaliyeed ee la raadinayey oo suurtoobi weyday ayaa ku keentay in ay reer somalilan dib ugu howlgalaan soo guryo celinta maandeeqda loo boqnagooyey shantii soomaaliyeed. bulshada reer somalilan ayaa dhisitaankii jamhuuriyadda soomaaliya qaybta ugu laxaad badan ka qaatay aan si calfan cunitaanka midhihii geedaha ay beereen. haddaba dhegaystayaal barnaamijkeenna maanta oo diiradda saaraya dhacdo ka mid ah dhacdooyinkii gugii 1984 ayaannu aqoon-yahan cabdiraxmaan cawl baqdaadi oo aad u ururiya taariikhdii halgameed ee bulshada reer somalilan ka waraysanay bal inuu xaalkii gugaasi 1984 wax ka tilmaamo waxaanu yidhi xaaladdu waxay ahayd xaalad aad iyo aad u qallafsan labadii sannadood ee ugu dambeeyey marka laga soo bilaabo waktigii dhagax tuurkii 20 February 1982 marka waktigaa laga soo bilaabo waxaa jirtay in aanay xaaladdu deginba oo ay ahayd markaa xaalad abuur dawladdu ay wado oo ay markaa ku wado dadweynaha oo waktigaa ka dhagaxsay aan dhagax tuurkaasi wax damayba aanu ahayn kacdoonkoogaasi muu ahayn kacdoon halkaa waktigaa sanadkaa uu bilaabmay ku shiiqay oo halkaa ku damay kacdoon isdaba joogay ayuu ahaa laakiin dawladdu mar walba waxa ay culayska saaraysay waktigaa taagnaa sidii dhaqankeegu ahaa in ay kusoo jeesato dee shicibkeedii ay markaa xabad la dhacdo hooyooyinkii waalidiintii dadkii mada ahaa maxaysatadii inay markaa dadkaa xasuuqdo oo ay xabad la dhacdo sii kullayso un markaa xaaladii taagnayd ee waktigaa ardaydu ay ku tallaabsatay. horta sanadka 84 wuxuu ahaa sanad ku suntanaa dhacdooyin aad u fara badan oo iska daba dhacayay oo midba midda kale ay ka daba dhacaysay. sanad wuxuu ahaa lahaa dhibtiisa iyo culayskiisa iyo murugadiisa lahaa. sanad wuxuu lahaa farxadiisa iyo taabagalkiisa iyo waxaad ku taamayso iyo himiladiisa fog. sanad kutusaya markaa bildaan ku muuqata iyo bil soo bilanaysa ayuu sanad isku dhafan buu ahaa. sidoo kale xaaladii deegaanka iminka ah dalka somalilan ku sugnaa ayaanu wax ka weydiinay cabdirasaaq sheekh ibraahim kooshin oo ku magac dheer cabdirasaaq alfo waxaanu yidhi faad marka hore aad baad mahadsan tahay. haddii aan waxoogaa ka wagamo xaaladda dalku siday ahayd intaan xadhigaygu iman xaaladda dalku waxay ahayd mid aad u adag xaqiiqdii dhib badanna waktiga ay ka jirto guud ahaanba goboladii loo odhan jiray waqooyi galbeediiba hargeysa iyo laga soo bilaabo ilaa iyo 82 waktigii dhagaxtuu ku dhacay ama waktigii arday macalimiinta iyo nimanka dhakhaatiirta ee ufa la odhan jiray la xidhxidhayna xaaladdu waxay ahayd mid maarbaysa kasii xumaanaysa. dhib badan ay ummadda lagu hayo oo xadhig iyo dil iyo cadaadis iyo cagajuglayn iyo in hadhka cad la yidhaahdo hoyda ahayd. marka waxay ahayd runtii wakti aad iyo aad u adag. ilaa 84 waktigana la xidhxidhay wuxuu ahaa oona odhan kara wuxuu ahaa waktigii ugu adkaa ee ay ummaddu soo martay ama dhibaatadii ugu badnayd ay ku samaysay dawladdii madaxda ka ahaa siyaad. haddaba hagardaamooyinkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa in 7 dhalinyaro oo dhiiraday dil toogasho ah lagu xukumo. waxaa noo suurta gashay inaannu khadka telefoonka la beegsanno yuusuf maxamed ciise oo ku magac dheer yoonyo oo ka mid ahaa 7daasi dhalinyaro ee dilka toogashada ah lagu xukumay. waxaannu weydiinay inuu inoo sheego magacda dhalinyarada dilka lagu xukumay iyo magacyada intii xabsiga dheer lagu xukumayba waxaanu yidhi magacyada markaa 7dayadii dilka lagu xukumay waxay kala ahaayeen cabdiraxiin maxamed gaaruud, cabdi dhamac caabi, cabdi ismaaciil محمود أحمد شيخ إبراهيم شيخ عمر كندي، عبد الرزاق بكوشيشي، محمد باشا شيخ علي، يعني يوسف محمد. سجارك كله مركز حفص داين كي حفص كبير بكرة حكومي يجونا وحي كله أحمد محمد أبو علي، حسن محمد أبو علي لبلاص يقول على علي عبد صالح، محمود
أبو عبدي فرس كعب إسماعيل محمد جامع إسماعيل دلدل إسماعيل عمديين كلاس الأسواق الهنا لي iyo Saleebaan Ismaaciil Saleebaan Cisho iyo Cali intaas iyaduna ay kala ahaayeen. waxaa dhagaha in badan oo dhagaystayaasha ku soo dhacaya maxay galabsadeen dhalinyaradii ay dawladda isku maandhaafeen labada wasaaradood ee bulshada danyarta u adeega dayactirkooda iyo taakuleyntooda ayay dawladdii xil iska saari weeday burburka dhaqaale dilka iyo dhaca bulshada loogu sii darayna ooda ayuu goostay macallimiin isxilqaamay ayaa ardayda u kacay oo dhaqaale la'aan wax ugu dhigi jiray dhakhtarkii Hargeysa ee danyartana u hawlgalay dayactirkiisa macallimiintii iyo mutacallimiintiina dawladdii xilligaasi ee afweyne ayaa dil toogasho u qorshaysay ardayda oo markii horeba dawladda ku kacsan ayay tanina noqotay dhimbiishii hurisay inay ardaydu si badheedh ah dawladdaasi uga hortagaan waxaa sidoo kale ardayda ka mid ahaa Cabdirasaaq Sheekh Ibraahim Kooshin Cabdirasaaq Alfo oo jooga imika cariga Ingiriiska khadka telefoonka ayaanu ku weydiinay bal inuu inoo faahfaahiyo siday arrintaasi ku dhacday wax badan baa lagu eedeeyay qodobo badan baa lagu eedeeyay qodobada ugu xiisaha badnaa laakiin waxa ka mid ahaa goosasho gobolada waqooyi aan goosanayna ayaa ka mid ahaa walow aan arday aan wada hayno aan idmiga tagay aan inagu jirin haddana qodob weyn buu ahaa inaan waqooyi galbeed goboladii la oran jiray goosanayno waxaana lagu eedeeyay aasaasid uga kasoo horjeeda dawladda oo uga ka ardayna noo aasaasnay ka mid ahaa waxaana lagu eedeeyay inaan daadinay waraaqo dawladda lidku ah waxaana lagu eedeeyay hanjabaad waxyaabo badan dhowr qodob oo aynkaas ayaana lagu eedeeyay 29 September baana la geeyay maxkamadda 1900 iyo 4 October 1948 waana la xukumay 20 qof baanu ahayn laba kamid ah dil baa lagu xukumay inta kalena waxa loogu xukumay xabsi daayin iyo xarig markii la xukumay maxkamadda xarig ee ku dhacay waana la qaaday baabo ciidamada baana qaaday waxaana la geeyay jeelka Madheera la yiraahdo ku yaala degmada imika Madheera la yiraahdo qoladeedii dilka ahayd oo 7 ahayd waxa la geeyay meesha qabta la yiraahdo ee jeelka Madheera qoladii xariga ahaydna maxbisidaanka ayna wax la geeyay mar kale mudane Cabdirasaaq Alfo ha inoo raaciyo sidii loo qabqabtay iyo sidii dawladdu ku heshay xogta xubnaha ururadii dhalinyarada ee ay ka tirsanaayeen anagu oo baanu ahayn ka soo jeeda dawladdaasi oo ardaydu ay leedahay waanu 18kii aasaasnay waqtigii macallimiinta la xidhiidhay xaqiiqdiina wax badan waqtiga dagaal fara badan la galay dawladdiisii adbare diyaana la xidhiidhay ayaa waxa jirtay inaanu qaybinay waraaqo aanu qaybinay niman odayaala oo markaa dawladda ay gacan saar lahaayeen oo aanu lahayn ka baxa gacan saarka dawladda la leedihiin ayaan waqtiyada qaybinay niman dhalinyaro badnaaba nuu dhiibnay marka waxaan ku fashilanay waraaqaha dhiibidooda iyo ciidamadii aan u dhiibnay ciyalkan u dhiibnay baa qaarkood na garteen saas ayuu shilaadayadaas ay ku dhacday iyo qabashadayaduba badhna suuqa laga qabtay badhna guryaha laga qabtay aniga Yuusuf Maxamed Ciise waxaana laga qabtay suuqa badhna waxaan isleeyahay guryaha laga qabtay intii dambe ama suuqa macallimiinta wax u dhigtay ardaydaasi waxaa ka mid ahaa Dr. Maxamed Raabi Axmed oo imika ku sugan cariga Canada waxaanu weydiinay aqoonta gaar ahaaneed ee uu lahaa dhalinyaradaasi sababta keentay xadhigooda iyo xukunkoodii waxaanu yiri Dr. Maxamed Raabi horta faado ardayda ay u doodeen badankooda waxaan u ahaa macallin oo xilliga anaguna shaqo qaran baan ahaayoo dugsiga 26 June loo oran jiray baan wax ka dhigi jiray oo waa xilligii 1981kii sidii aan horeba u soo sheegay marka aad baan runtii u aqaanay niman aanu de wuxuu dhigayay oo marka arday ii ahaayeen niman aan wax badan ka sheegi karo dabeecadahooda habdhaqankooda dhaqdhaqaaqa ay xilligaa wadeen dareenka iyo fishanka ay lahaayeen يعني واحد بدن بان نمان كاسي رنتي كأقاني وانا نمان رنتي تاريخ الميل وناقصن كجلي قاركود وادنتين الله يرحمه سيد بريد أو كلا أو سجن ركمان سو قارين أو دجالة دي بكون لكن اللي واحد نول ضد بدنه أي كمديه يوسف محمد عيسى عبد الرزاق الفي عبد إسماعيل محمد حاشي بعضي نمان بدنه عين كاسي ولي وانوليهين marka aad baan runtii ku aqaanay nimanka dhalinyarada ahaa oo da'doodu ay markaa xilliga aad u yarayd in aan isleeyahay haddaanan qaldanayn 15 jir may gaadhin midkoodna markii ay halgankaasi iyo dareemadaasi uu galay in ay diidaan habdhaqankii xumaa ee markaa dawladdii siyaadba ay kula dhaqmaysay dadkii gobolada deganaa haddaad dib u raacdo maxaad ka xusi kartaa sababaha loo xidhay
iyo xukunkooga intaas koogeeda ogaalkaaga. horta run ahaan dee waxa loo xidhay waxaan malanaya inay iska cadaydo dee inama yaryar oo kacay oo baraarugay oo dareemay in waxaan ay dawladdaasi markaa jirtay samaynaysa ay qalad tahay ayuunbay ahaayeen oo iyaga oo aan wax dhibaataa geysanayn laakiin mudaharaadyo sameynaya salmiya dawladduna ay xabad iyo xoog kala hortagtay iyada oo aan ogolayn inay cidi hadasho oo ay u arkaysay haddii ay dhalinyaradani ku kacaan inaanay xukunka sii haysanayn dhibtaa iyo dulmigaasina aanay sii socon doonin taas unbaa horta kalifaysay in nimankan culays lagu saaro xadhigooduna saasuu ku yimid xukunkoodu dee ninkii joogayna waa joogay qofkii kalena kolley maqaliyo midiyaha iyo meel walba way ku jirtay xukun dee lama odhan kara wuxuu ahaa un ninka jajka ah iyo ka mudiciga ah iyo ka markhaatigaba intiiba waa dawladdii un yani jajkii iyo juurigii labadiiba iyagu baaha marka xukunku xukun la iska riday oo iska sii diyaar ahaa ayuunbay ahaayeen oo waad ogeydo dee niman badan dil baa lagu xukumay ilaahayse kama dhigin oo dee teewadii mayay noqon oo waa kuwa maanta qaar badani nool kuwii kalena iyaga gacantooda kumay dhimane dee waa halgankaas ay ku dhinteen xadhigoodi iyo xukunkoodu ahaa oo inamo yaryar oo dareen uu galay oo xilligeedii taagnayd ayay ahayd dawladduna aan markaa jirtayna aanay naxariis u gelin nidaam hagaagsan aanay u marin xadhigooda. ardayda xadhigoodu wuxuu bilaabmay bishii maarso waxaan u socday ilaa horaantii bishii luulyo ee gugii 1984 waxaanay kala ahaayeen 18 arday ah wiil dhalinyaro ah oo ilaahay ha u naxariistee ahaa ka keliya ee ay dilkii ku fuliyeen xukuumaddii afweyne mar dambe iyo macallin abwaan cali xasan aadan cali banfas ilaahay isna ha u naxariistee oo magaalada hargeysa ku geeriyooday dabayaaqadii bishii oktoobar ee 2013 waxaanu ka mid ahaa dadka maandeeq soo celinteeda u soo halgamay caanaheegase aan dhamine abwaan cali xasan aadan cali banfas ayaa waxaa loogu soo gabaday maansooyin u tiriyey kagana qayb qaatay halgankii dib ula soo noqoshada maandeeqe waxaa maansooyinkaasi inay akhriyaan isku dayey kuwii isku sheegayey xeer ilaaliyayaasha iyo dhiiggii cab maxamed yuusuf geelle oo iminkana jooga dalka switzerland markay calaliyeen ee maansooyinkii macaluul badeen ayuu abwaanku ishayn kari waayey kuna yidhi anigaa labadan maanso iyo kuwa kale ee aad doontaanba idin akhriyaya iyaga oo la yaaban dhiiranaanta xaddaafka ah iyo siday uga go'an tahay gudbinta dareenkiisa ayay cod midaysan ugu sheegeen inuu akhriyo waxaa lama ilaawaan ah oo sooyaalku sugaya in mudane cali xasan aadan cali banfas uu labadaasi maanso ka hor akhriyey kuwii isku sheegayey xeer ilaaliyayaasha iyo dhiiggii cab maxamed geelle yuusuf labadii maanso oonu bar ka soo qaadannay ha inala wadaago abwaan cali xasan aadan cali banfas ilaahay naxariistiisii jannaha ka waraabiye waxaa la yidhaahdaa raamaale oo waxaan tiriyey 97 waana kii laygu xidhay isagiiyo ku kaloo gabayga kale ku xigay kudkuduhu la yidhaa gobonnimo la soo roornay oo weydinkii raqaye ee subagii raaraa guryaha rooma loo diray aadan iyo rasaad waa tii ay nagu rakiigeene xamaraato oon leecin oo aradka ruugaya rab intaan ku idhi waa anigii raacdo dheer galaye rashiid iyo cigaal maalintii mulku kala reebay raahibkii talyaaniga ka hadhay reerta sare fuuliye mareexaankii raamaha lahaa reer walbow tiriye riyaad bay ka gooshaan habrihii baanka loo raraye riyaalkii sacuudiga ayay laba rogayaan rajadii iyo aqoontii lahayd way raacfaan gudanni kana waxaa kudkude markaa kudkudana isna gabaygaa dee fasiraya waxa aan ka hadlaayo kacaankaa u sacabaynaysaan waa la kaarahay dherigay idiin karinayaan waa kud iyo faare dhunkaal kuu kala ankalaysabaad soo kilkilisaane koodhkii afweyniyo la tuur kad iyo xaarkeedii kaalintii bukaasuu galo wuu kurbanayaa ee kaydkii amiin buu dhigtay oo koorihii go'aye ninka maanta kaalmaynayaa kayd xun dhaansadaye tolkayow maxaa u kuududaan la idin kooreeye soo rogaal celinta sooyaalka ayaa ummad kasta u noqda raasamaal markay ka gaashaamaan waayaan dareenka bulshaduna ka kori waayo nin jeclaysi iyo reernimo waxaanu abwaan cali banfas uga tegay tusaale nool oo hor yaalla maansooyinka dhallinyarada soo kacaysa ee reer somalilan
arrinta ardayda dilka toogashada lagu xukumay waxa ay noqotay dhacdo wargeysada reer galbeedku aad uga hadlaan hay'adaha u dooda xuquuqda dadkuna ay aad ugu dadaaleen inaan dilkaasi dhicin hase yeeshee dareenka adduunka iyo bulshadii reer Soomaaliland xukunka ka qaateen waxa fal ahaan ku fuliyay mujaahidiinta aynu xuskooda maanta u howlgalnay codbaahiyaha iyo telefoonada ayaanu la dhex marnay bulshadii xilliga xogogaalka arrinta u ahayd oo iminka kala jooga daafaha adduunyada waxaanu weydiinay halkay joogeen maalinta dhacdadaasi dhabowday waana kan ugu horeyn Booba Yuusuf Ducaale halkeed ku sugnayd Boobe maalintaasi uu afdub ku dhacay ee November 24 1984 bismillaahir rahmaanir rahiim maalinta waxaan ku sugnaa magaalada Dirdhabe oo ka socday kalfadhi golo dhexe aan filayay inuu ahaa kalfadhigii koowaad ee caadiga ahaa ee golaha dhexe SNM marka laga soo tiriyo kala guurkii shirweynihii afraad oo ku qabsoomay magaalada Jigjiga bilaabmay bishii August 6 1984 horta gelin dambe ahayd maalintaasi aan maqlay afduubka diyaaradda waxaan ku sugnaa Dirdhabe oo markaa anaga noogu suntaneed oo loolan jiray xarunta SNM ee maamulka Raamaale gelin dambe ahayd salaad casar kadib waxaanu fadhinay hoolkii shirka uu ka socday kalfadhiga koowaad ee caadiga ee golaha dhexe SNM bal Cabdiraxmaan Baqdaadina ha inooga warramo maalintaasi iyo halkii uu joogay bisha November 24 waxaan joogay magaalada Djibouti waxaan ahaa markaa nin baa mushtaraayaan ahaa magacaygu waa Cabdiraxmaan Cawlo waxa Djibouti markaa ka aasaasnaa waqtigaasi unugyo ishaysto isku xidhan oo ka tirsanaa kadib dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM markaa unig aad muhiim u ahaa oo xoog lahaa oo ay hoostiisana ku hoos jireen unugyo waxqabad iyo howlqabadba iyagu ku salaysnaa ayaa jiray haddii ay noqoto xagga intelligence-ka oo aad aanu xiriir xoog leh ula lahayn sidii aanu u heli lahayn waxyaalaha ka socda gudaha dalka isku xirka dibadda iyo gudaha oo markaa ahaa haddii ay noqoto ama Yurub ha noqoto ama Mareykan ha noqoto ama dalalka Carabta markaa aad loogu xoog roonaa ha noqoto iyo dalka gudihiisa haddii ay noqoto markaa magaalada Xamar oo warbixinaheegu ay soo mari jireen Djibouti iyo gudaha kale ee Hargeysa iyo Burco iyo Berbere iyo wixii ilaa Boorame iyo wixii kolba hawluhu sida ay u socdaan unugayagu markaa aad buu arrimaha ugu mashquulaha waxaad moodaysay markaa arrimaha baac mushtarka ah aanu ku jirnay inay nagaga xoog badnayd tani oo tan aad culayska u saaraynay afduubka diyaaradii Somali Airlines wuxuu dhacay bishii November 24 1984 oo ku beegnayd maalin sabti ahayd saasi darteed ayaanu mudane Dr. Maxamed Axmed Raabi weydiinay inuu ka warramo sidoo kale goobta uu joogay iyo siduu ku ogaaday dhacdadaasi waana kan Dr. Maxamed Raabi Axmed oo ku sugan imika Cariga Canada magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Raabi Axmed November 24 1984 waxaan ku sugnaa magaalada Muqdisho xilligaa waxaan ahaa anigu arday wax ka barta jaamacaddii kulliyadii caafimaadka oo waxaan baranayay dhakhtarnimo waana xilliyadii ay ku beegnayd afduubkii diyaaradii ay afduubeen saddexdii mujaahiday kala ahaa Cawl iyo ina Waraabe iyo Diiga la raxme saddexdooduba maanta way dhinteen marka anigu qiyaas ahaan xilligaasi waxaan joogay magaalada Muqdisho waxbaan baranayay dhakhtarnimaan baranayay kulliyadii caafimaadkan ku jiray sideed ku ogaateen dhacdadaasi annagu markii hore class baanu ku jirnay horta xilliga ay waxaan dhaceen oo in markaa hore maanaan ogeyn laakiin markii aanu classkii ka soo baxnay aanu nimid guryahayagii ayaa dadku dee berigaa telefoona iyo wax lagu wada xiriiray iyo waxaasi may jirin waa iska seexanay intaanu xogaa markaanu qadadii iyo wixii cunnay waa seexanay dibadda galabtii baanu usually bixi jirnay oo aanu tegi jiray meel noo dhaweyd oo African Village loo oran jiray dadka xoog isugu yimin jireen halkaas ayaanu dibadda warka ku ogaanay oo aanu ogaanay in diyaaradii Somali Airlines ay lahayd la afduubay oo ay ka degtay Addis Ababa sidoo kale ayaanu weydiinay siday ku maqleen dhacdadaasi Booba Yuusuf Ducaale oo ku sugan Cariga Somaliland iyo Cabdiraxmaan Cawl Baqdaadi oo ku sugan Cariga Ingiriiska waxaanay kala yiraahdeen haddaba dhacdadaasi sideebaad Boobe adiga iyo ururkii SNM ku ogaateen muxuu si ahaa dareenkii aad ka celisay
warku wuxuu nagu soo gaadhay annagoo salaad casar kadib shirka fadhina gelin dambe saacad maray 4 iyo meelaha tahay dabeedna Axmed Maxamed Xamuud Sinaan oo shir gudoomiyaha ururka ahaa gudoomiyaha golaha dhexe gudoomiyaha guddi fulneed ahaa oo shirka gudoominayay oo markaas uu ka soo maqnaa in yar ayaa kici doona oo telefoon xafiiska looga yeeray telefoonku ku soo hadlo dabeedna markuu soo noqday uu noo sheegay inuu yiri arrintaas dhacday dabeedna anagu xaalad baan iska galay murugsan dadka qaar way ku farxeen dad badan oo aan xogaa lahayn oo garanayn macnaha ay dhacdadu leedahay oo waxay u arkayeen dawlad baa la aftuubay oo dabeedna warkaa gelay oo dabeedna SNM waxaan kaasa qaar kayana way ka naxeen oo dabeedna in lagu shaabadeeyo urur argagixisa oo terrorism ah dabeedna waxa dhacday in gudoomiyihii wafdi uu la socday ay tageen Addis Ababa dabeedna qoladii xafiiska Addis Ababa joogtay Addis Ababa iyadana markaa la oran jiray saldhiga SNM ama xarunta SNM guulalle lagu magacaabi jiray dabeedna inamadii dawladda soo aftuubay oo laba ahaa Cawil iyo Baashe markii dawladda gudaheeda uu mid kale ka raacay Axmed Waraabe oo isaguna reer Hargeysa ahaa ay doonayeen in ay ku baayactamaan inay sheegtaan SNM laba isqaban waayo iyo inamadii oo SNM tii u tagto tiri hana sheeganina iyo inamadii oo de naftooda u soo biimeeyeen dawladda aftuubaan oo SNM sheegtaan iyo SNM oo maamulkeedii aad soo joogay gudoomiyaheedii wixii de dhaxdhaxaynta ku jiray ay ku yiraahdeen waxna lagu shaabadeynaya argagixiso ay hana sheeganina tiiba dhibaato weyn la timid aduu laakiin tii mar dambe oo daal badan dhacay ayay ku qanceen siyaasana SNM u sheeganin siyaasana ku galeen liiska argagixisada oo Interpolka lagu ogeysiiyay oo ay u noqdeen dad u calaamadsan Interpolka kaanama sidii waxay Ethiopia jeelasheedu ku jiraan oo kale run ahaantiin raad ayay kaga tagtay Cawil iyo Baashe oo labaduba saameyn ayay ku yeelatay noloshoodii dambe iyo shaki badan oo ku abuurmay maalinta diyaaradda la aftuubay door barqaa ayaanu ogaanay oo markii ay diyaaraddu soo kacday uun shaqaaqadu ka dhacday gudaheega ayaa ay la xiriireen taawarkii xamar markaa in diyaaradda cidi aftuuftay ayay u sheegeen marka xamar ayaa markiiba anagu aanu ku ogaanay in diyaaraddu aftuuban tahay laakiin cid aftuuftay war kama aanu hayn diyaaraddu markaa waxay u jahaysatay oo ay waxay ka jeedsatay xaggii ay u socotay waxaanay u jahaysatay markaa Yamanta koonfureed oo waqtigaa dawlad madax bannaan ahayd oo cadani magaalo madaxdeeda ahayd madaxweynena uu ahaa Saalim Hubeeye Cali xiriir wanaagsan ay SNM wada lahaayeen waqtigaasi oo nin aad taageero u siin jiray ahaa xagga ayay u jahaysatay diyaaraddu markaa cadani way diiday in ay diyaaraddu fadhiisato warbixin markaa sugnayd oo aanu ka helaynay ama gudaha Djibouti ha ahaato ama xagga Ethiopia labadaba ha ahaato waxay markaa aanu tallaabo ula soconay kulba halka ay marayso waqtigaa waxaanu ku wada fadhinay 3 qof baanu ahayn Abshir Nuuro jooga imika dalka Canada iyo Allah yarxame Maxamed Faarax qadiimi iyo aniga waqtigiina aanu maqalay deedna markaa waxay noqotay aanu qolooyinka kale la hadlo laba qaybood isku qaybino qayb sidaa ula socota bal kulba halka ay marayso iyo xaaladeedu sida ay tahay iyo qayb wardoon samaysa cidda aftuuftay maxay yihiin oo waa ay ciidan diyaaradda aftuubka u geysatay labadaa qaybood baanu markaa isku kala qaybinay sidoo kale ayuu isla weydiinta ka warceliyay Cabdirasaaq Alfo oo kamid ahaa ardaydii dilka ku xukunaa markaana ku sugnaa qolka qaybta ee xabsiga Mandheera marka diyaaradda waxa la aftuubay 24kii November ee isla sanadka marka waxaan ku jirnay biliyo xoogaa marka way 3 October baan la geeyay 24kiina waa la aftuubay diyaaradda sidaan ku ogaanay haddaan waxoogaa ka sheekeeyo haddaan guud ahaan sawir ka bixiyo qaybta dilka si aad u fahantaan ama u fahanto sida wararka loo helaa inaanay ahayn wax fudud ama meeshu sida ay u samaysan tahay waqti qabta waxa loo sii maraa 7 albaab loo soo maraa labada albaab ee ugu horeeyay jeelka laga soo galo laba albaab markaad ka soo gasho albaabka annaga iyo xigada weyn kala qaybiya ayaa la soo galaa laba albaab oo qaybtayada kamid ah
ayaa la soo galaa oo laba albaab oo aan loo ogolayn in mar ay wada furmaana. albaabka hogaa ayaa laga fugayaa, waad soo gelaysaa, dhexdaad istaagaysaa, kaasaa la xidhayaa, kii kala la fugayaa, gudahaad soo gelaysaa, dabadeedna waxaad soo gelaysaa la fugayaa albaabka maqsinayada aan ku jirno. 7 albaab ayaa loo soo galaa qabta, waana 2 aqal oo kala sareeya oo inta maqsinada la dhisay ayaa aqal weyn laga dul dhisay oo 2 aqal oo isku dhex jira sida ay u samaysan tahay. 4 maqsin waa 8 maqsin, 4 dhinac ayay ka soo jeedaan. albaabadayadu waa gadaa'id, waxaa loogu talagalay halkaa 4 maqsin iyo 4 maqsin dhexdooda habeenkii askari ayaa 3 saacadood nin askari ayaa socda oo inta la socda dhaqdhaqaaqa iyaga iyo hugdadayada iyo waxaanu samaynayno. maaha meel cidi soo gasho, askari gooniya ayaa gaarka qabata oo maalintiiba 24 saacadood ayay askartu soo gashaa, gaar soo galaa. maalinta dambana 24 saacadood kale 2 gaar ayaa isbedela oo gooni oo ah qabta. raashinka waxaa noo kariya 2 inan oo xerada laga keenay ayaa raashinka noo kariya, dibadda lagu kariya raashinka, dabeedna waa naloo keenaa. waxaa kaloo jirta subaxii mar baana laga fugaa oo aanu u baxnaa inaanu dee musqusha iyo waxaad aadno. marka aanu dhamaysano maqsinada ayaana lagu celiyaa ilaa gelinka dambe, halkaasaanu ku jirnaa. haddana mar labaad gelinka dambe ayaana laga fugaa. habeenkii oo dhan mar dambe layskama fugo, wixii 5 ka dambeeya haddii ay kaadi ku qabato daasado noo yaalo, daasada caana booruhu ka dhammaaday ayaa layskaga kaajaa. waxyaabaha subaxii ayaana loo keenaa 2 inan oo xerada laga keenay oo naga nadiifiya kaadida iyo wixii maaragtay meesha yaala. raashinkana noo keena. had iyo jeeg 2 inan ee loogu talagalay inay qabta ka shaqeeya waxay ahaan jireen 2 inan oo u dhashay dalka Soomaaliya imika la yiraahdo ama koonfurta Soomaaliya markaa uga wadan jirnay. weliba dadka ku hadla afka maymeega ayaa la keeni jiray oo af Soomaaliga anagoo ku hadallo ama lahjadan aynu ku hadalaa aad ugu adag tahay, aqoonteeda iyo ku hadalkeedu aad ugu adag tahay. waxa la diidayay in aan isfahadno oo sheekaysano oo ay wararka maartay wixii jira ay dadka xigada u soo sheegaan. dadka meesha ku xidhnaa qabtuna waxaan oran karaa waxay ahaayeen dad wada dhashay Soomaaliland, wadanka imika la yiraahdo oo ka soo jeeday badindoodu ama gobolada waqtiga loo oran jiray waqooyi galbeed. marka inamadaas waxay ahaayeen 2 inan oo sida loo fahmaa ayaa hadii jeeg la keen jiray, laakiin mid nasiib wanaag waqtigaan tagnay mid kamid ah Ibrahim la oran jiray af Soomaaligiisu aad buu wanaagsan, si wanaagsan ayay soo fahmi jireen. wararka ama wixii ay xigada ka maqlaan bay noo sheegi jireen amaba qolada xabsidaayinka ku xukunaa ayaa soo fagi jirtay kolba wixii fagima ee oran jiray waxaa jira u sheega. waxaa kaloo jiray habka loo wararka loogu keeni jiray oo buugiga cas ee la duubto waraqaha uu ku jiro ayaa inta buugiga inamadu ka shubaan ayay wararka ku soo qori jireen, dabeedna buugiga ayay ku soo shubi jireen, dabeedna buugi ahaan baa loo keeni jiray. markaanu ka shubno ayaan dabeedna warka ka akhrisan jiray. markay inamadu soo galaan hadii askari baa la socda oo isaga laftiisu ka ilaalinaya inay la sheekaystaan dadka maxaabiista dilka ah. hase yeeshee askariga laftiisa marka qaar iska sheekaysan jiray ama marka la doonayo in la waraysto maqsin kamida maqsinada qabta ayuu mid askariga la hadlaa, kaasoo askariga ku jeestaa. markaas ay inamada markay daasada ka hor qaadayaan ama waqtiga raashinka ku dhigayaan ayaa Ibrahim ka oran jirtay Ibrahim balkowgan maxaa jira maanta. markaasuu isagoo dee baqasho aad u badan ay hayso oo isaga laftiisa haddii lagu qabto isagoo wax sheegaya ciqaab mudanaya uu sheegi jiray inta mar warka noomu wada sheegi jiray. waxa laga yaabaa inuu marba wax yar waayo subaxaas oo kale markaan niloo bigaay maxaad sheegtay balkowgan intuu dhinacyada iska eegay ayuu yidhi diyaaradii Soomaaliya la aftuubay. uu naga dhaqaaqay marka meel aan u qaadno diyaarada la aftuubay iyo waxa loo aftuubay baanu garan weynay. mar labaad maqsin kale ka soo noqday uu hormagayo ayuu haddana noo raaciyo yidhi idinkaa laydii aftuubay. sidaasuu nagaga baxay. waqtigaasi cid kale wax la weydiiyaa ma jirto, meel kaleona warka kageenaa ma jirto. annagoo warkaa hayna oo meel aan u qaadna la askartuna weligood halkan hortaada hadday wax ka dhacayaan dad wax kuu sheegayo loogu talagalay inay maxaabiista wax u sheegaan maaha. inkastoo mararka qaar maxaabiiska askarta ka war badnaydba, laakiin waqtigaa jeelka weyn idaacadaha inay dhegaystaan raadiyoy haysteen oo inay idaacadaha dhegaystaan waa loo ogolaa. maalin labaadii ayaana loo keenay marka ilaahay naxariistee Cali Xasan Aadan Cali Banfas oo aan isku kiisna ahayn ayaa la keenay qabta oo idaacado oo nin macallin ahaayo af Ingiriisida iyo af Carabiga si wanaagsan u yaqaanay oo idaacadihii Carabiga iyo tii Ingiriisida ba soo dhageystay iyo tii Soomaalida ba ayaana loo keenay. dabadeedna Cali baa nooga sheekeeyay waxa dhacay in diyaarada Soomaaliya Airlines la aftuubay in la yidhi ardayda iyo dad kale siyaasiyiin oo xidhnaabaha la sii daayo. ilaa waqtiga halka uu marayay xaaladdu waxaa nooga waramay oo si faahfaahsan nooga waramay Cali Xasan Aadan Cali Banfas. sidaasaan ku ogaadnay horta diyaarada
iyo maqalkeeda annagoo markaa waka sidii unu hello oo inamada ay noo sheegaan maalinba halka wax magayaan waxaan is leeyahay diyaarada in la afduubay maalin sabti ah inay ahayd maan jecelahay khamiisna ay soo noqotay ayaa runtii anaga waqtigii noogu farxadda badnayd ayay ahayd oo 2 farxadood baa nagu soo magay jeelka oo maalintaasna maalin runtii aad noogu farxad badan bay ahayd yaanay suurta gelin sii deyntayadii laakiin waqti ay aad u farxad badnayd bay ahayd boqolkiiba 60 waxaan islahayn waa laydii sii deynaya 40 kale markaan eegno ninkii meesha haystay xumaantiisa iyo adeegiisa waxaan odhan jirnay mararka qaar waxba wayna sii deyn maayeen laakiin dee 4 cisho ayaanu diyaar u ahayn boqolkiiba 60 in la sii daayo laakiin maalin arbaca dadka waqtiga jeelka waxa loo iman jiray arbacada iyo jimcaha ay dadkoodu soo booqan jireen inkastoo isla sanadka la joojiyay labada booqasho oo hal booqasho laga dhigay maalin arbaca oo naloo yimi ayaa naloo sheegay diyaaradii inuu afweynay yidhi waxa mas-uulka ah dawladda Ethiopia diyaaradiina ay nimankii sii deynayaan bagita oo khamiisana ay dalka kusoo noqonayso aad baan u jecelahay maalintay dalka kusoo noqotay inay khamiis ahayd waxaan leeyahay 4 cisho ay diyaaradu joogtay Ethiopia oo ay haysteen faad bishii September 29keedii ayaa maxkamad ku sheegay gacan ku dhiigle Maxamed Geele Yuusuf oo uga wakiil ahaa in Siyaad Barre la hor keenay 20 qof oo reer Soomaaliland hase yeeshee qorshihii iyo xukunkii loo malmaluqay ee lagu soo sargooyay guriga in Siyaad Barre ayuu bishii October 3deedii isla gugaasi 1984 akhriyay gacan ku dhiigle Maxamed Geele Yuusuf haddii cadaaladu ay ku joogi lahayd amaba loo deyn lahaa hawsheedii inay sidii xaqa u qabsato ma ay dhici karin haba yaraata ee maamulkii xumaa oo dalka lumiyey dibna u dhigay hore u socodkii adduunkoo idil jiray taa waxaan u leeyahay haddee wixii xunuuba sharci baa ku fadhiya oo sharci baa jira baab qaban hayaa jira haddee baabka haddii lagu qabto waxay la tahay tuuga ma dhacdeen laaluush ma dhaceen waxa haatan loo baxshay musuqmaasuq ma dhaceen macnaheedu waxa weeye waa inaan aaminsanahay cadaaladda leesh sharcigu waa inuu ka sarreeyaa nin kastaba ma aha sharciga in ragga qaarkii ay ka sarreeyaan oo ismoodaan ama markay xoogaa xoolaa leeyihiin ama markay boos hayaan inay sharciga ka sarbarayaan been weeye sharciga nin karbaray ma jiro taas waxa weeye qaraabka waddanka marka uu socdo markii sharcigu uu hoos maro oo nin us yiraahdo hadda sharciga nin baa sameeyay anna maan sameeyo sharciga nin baa sameeyay laakiin wada xalaala oo quman oo dhabayaal badan leh oo laga fiirsaday baa loo sameeyay waxaa loo sameeyay maslaxadda caamka ah ninka xulna in lagu qabto oo khaaska ah kaligiisa caamiyadana nabadgelyadooda iyo maslaxadooda in lagu daafaco marka nin kaliya marka see ku samayn karaa kii laga gaashaabanayo sharciga loo sameeyay isagii weeye see ku bedeli karaa nacam sharcigu waa inuu dul joogayso kaasi wuxuu ahaa Siyaad Barre oo dhiiri gelinayay in hadiya jeer farta cid kale lagu fiiqo qortana qumanaha loo suro wuxuuna aad u iska duwayo saarayay xukuumadii uu inqilaabay halkay arintu ahayd ceelka ii banee aan wadaanteeda ka buuxsadee saasi darteed ayaa Siyaad Barre xukuumaddiisa ku qaaday 7 dhalinyaro oo 6 kamid ah arday ahaayeen xeerka 54aad firqadiisa saddexaad ee xeerka ciqaabta guud xeerkan waxaa soo saaray in Siyaad Barre 10 bilood ee ugu horeeyay markii uu xukunka marorsaday waxaan weydiinay mudane Cabdiraxmaan Baghdadi oo arintaasi si weyn ula socday ilaa imikana haya dhammaan xogihii ku saabsanaa arintaasi ee qoraal ahaan lagu soo bandhigay waxaana xogahaasi uu hayo mudanuhu ka marnayn warqadii ka soo baxday maxkamad ku sheegaasi ee uu ku qornaa xukunku waxaanu yiri waxay soo jiidan taba bishii March 1984 waxa la xiris arday oo ardaydii iskuulada ahayd iyo nin dhalinyaro ah oo isagu dhalinyaradii magaalada ahaa iyo nin macallin ahaa oo macallimiintii wax ka dhigi jirtay dugsiyada ahaa magac weynna ku lahaa qaranka ahaa nin gabayaaya caana la oran jiray cali xasan aadan cali banfas 18 arday oo aad da'doodu u yar tahay markaa 1984 ayaa iyaga la qabqabtay oo la xiray waxa maxkamadda la keeno maxkamad military oo markaa aan cidina ogeyn oo ciidamadu ay xukumayaan oo la leeyahay xukun baanu ku ridnay si awliyaan cidina garanayn
ayaa waxaa lagu xukumay 6 ardaydii kamid ah iyo inankii dhalinyarada ahaa dil baa lagu xukumay toogashaa 12 waxaa lagu xukumay xabsi daayin macalinkii cali xasan aadan cali banfatna waxaa lagu xukumay 15 sanadood oo xariga taa lafteedu markaa waxay abuurtay kacdeen labaad iyo waxyaalihii waktigaa dee cabashada ahaa ee adduunyadu aad la horwadayenu international communityga la hordhigaya lahaa war dhibta intaa leeg baa jirtaa ayay cadaymo u noqotay inama yareer oo arday oo dil lagu xukumaayo xabsi daayin lagu xukumaayo waxay u noqotay markaa cadayn bay noqotay oo waxaa aada uga hadlay markaasi miidiyaha adduunka gugan 1984 dhacdooyinkan ka sokow wuxuu bulshada reer Somaliland ku lahaa tilmaamo kale si aynu haddaba dhacdooyinka ku ladhan gugaasi wax uga ogaano qaar kamid ah ayaanu wax ka weydiinay taariikh ururiye mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Boobe waxaanu yiri waa 3 dhacdo ayaa muhiim ah oo mid waxa weeye in August 1984 uu qabsoomay shirweynihii afraad ee SNM ee caadiga ahaa muddo 9 cisho meelaha socday waa shirweynaha lagu dooranayo markii ugu horeysay Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo imika dalka madaxweyne ka ah shirweynahaasi 2 sanadood ayuu soconayo wuxuu soconayay 84 ilaa 85 dabeedna adu 6 bilood baa lagu dari doonaa ilaa 87 ayuu nala galay taasi dhacday ahayd dhacdada labaad waxay ahayd markii aanu shirka ka baxnay August 9keedii in 12keedii meelaha 12keedii 12keedii ayaa ururka waxa ku furmay waxa la oran jiray Gaashaamo Base Committee oo la baxday Gaashaamo Base Committee magaalo tuulo yar oo la yiraahdo Laanqeyrta Doombireelay oo Gaashaamo ka sokaysa oo khalkhal geliyay ururkii oo yiri waxaanu nahay hay'ad iyagoo dastuurka SNM ka dhaqaaqaya wax base la yiraahdo jiray laakiin tii xuquuq ku ahayd ama takoor ku ahayd ururka SNM oo dhibaato badan ay nagala kulantay laakiin tii muddo yar kadib iska baabaaday dhacdada kale ee beriga dhacday waxay ahayd afduubka diyaaradda oo dawladda Somali Airlines la soo fadhiisay magaalada Addis Ababa dhacdada kale ee beriga dhacday oo dhowr maalmood ka dhacday waxay ahayd markii aanu ka baxnay August shirweynaha afraad ee SNM oo ka dhacay magaalada Jigjiga xeerada ciidamada dhexdeeda Kifladoorka loo jiray ama Asranya Kifladoor ayaa waxa dhacay gudagalkii 84kii ee bari ka soo bilaabmay ee jiida dhexe sheekh ku jirtay ee jiidan galbeed ay ku jirtay hawlgalkaasina berigaas u dhacay waa beriga ay soo baxaysa maansadii dhayarsi ee Axmed Jinis ee dharaarana soo maray dhacdooyinka ku gadaaman gugaasi waxa inta uu inoo sheegay Booba in kale ku sii daraya mudane Cabdiraxmaan Cawl Baghdadi waxaanu yiri xaaladdu waxay ahayd xaalad aad iyo aad u qalafsan 2 sanadood ee ugu dambeeyay marka laga soo bilaabo waqtigii dhagax tuurkii 20kii February 1982 marka waqtiga laga soo bilaabo waxa jirtay in aanay xaaladdu deginba oo ay ahayd marka xaalad abuur dawladdu ay wado oo ay marka ku wado dadweynaha oo waqtiga ka aan dhagax tuurkaasi wax damayba aanu ahayn kacdoonkoogaasi muu ahayn kacdoon halkaa waqtigaa sanadkaa uu bilaabmay ku shiiqay oo halkaa ku damay kacdoon isdaba joogay ayuu ahaa laakiin dawladdu mar walba waxa ay culayska saaraysa waqtigaa taagnaa sidii dhaqankeegu ahaa in ay ku soo jeesato dee shicibkeedii ay markaa xabad la dhacdo hooyooyinkii waalidiintii dadkii mada ahaa maxaysatadii inay markaa dadkaa xasuuqdo oo ay xabad la dhacdo sii kullayso un markaa xaaladii taagnaydee waqtigaa ardaydu ay ku tallaabsatay horta sanadka 84 wuxuu ahaa sanad ku suntanaa dhacdooyin aad u fara badan oo iska daba dhacayay oo midba midda kale ay ka daba dhacaysay sanad wuxuu ahaa lahaa dhibtiisa iyo culayskiisa iyo murugadiisa lahaa sanad wuxuu ahaa lahaa farxadiisa iyo taabagalkiisa iyo waxaad ku taamayso iyo himiladiisa fog sanad kutusaya markaa bildaan ku muuqata iyo bil soo bilanaysa ayuu sanad isku dhafan buu ahaayo markaa xiisadiisu aad ay u fara badnayd marka sanad wuxuu ahaa
dhibtiisa iyo deeftiisa labadaba sanad lahaa baan kusoo ururin karaya sanadka. dhalinyarada toddobada ah ayaa dilka lagu xukumay in lagu fuliyo ay dawladdii Inasiyaad u qorshaysay bishii Noofembar 25keedii ee isla gugaasiya. hase yeeshee gacan ku dhigilayaashii Siyaad Barre iyo Maxamed Geele Yuusuf waxaan maankooga ku jirin in fulinta hawshan uu Ilaahay awood u leeyahay. saasi darteed iskumay hawlin inay yiraahdaan insha Allah, taladana ugumay jirin inay carabka ku sugaan odhaahdaasi. waxay eegeen intay isleeyihiin waad qaban kartaan, garaadkoogana ka buuxiyeen. yaa aniga ahayn ee wax qaban kara, wax dili kara, wax xidhi kara iyo wixii la mida. waa kan Sheekh Cabdibaasi Ilaahay ha u naxariiste oo inala wadaagaya odhaahda Ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu farayo inaan nidhaahno insha Allah, oo muujinaysa inay awoodeennu kooban tahay intuu Ilaahay doonana aynu ka hirgelin karno. walaa taquulanna lishay'in innii faa'ilun dhaalika ghadan illaa وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. xukunka dilka ah wuxuu saameyn weyn ku yeeshay wargeysadii adduunka ka soo baxay xilligaasi. aad baanay uga hadashay warbaahintii iyo hay'adihii xuquuqda bini'aadamkuba. waa kan mar kale mudane Cabdiraxmaan Cawl Baghdadi oo arrintaasi inoo faahfaahiya. waxaa aad uga hadlay markaasi miidiyaha adduunka. haddii marka dib u raacdo African Analyze oo waqtigaa ka soo baxaysay dalka Ingiriiska, article bay ka qortay Children to Die for Speaking Out ayuu ahaa markaa cinwaankiisu. waxaad garan karaysaa markaa in international community-gii ay fariintii gaadhay ahayd meeshan dhibaatada ka jirta in ay isa saaraan oo ay arkaan. haddii aad Guardian eegto oo iyaduna kasoo bixi jirtay dalkan Ingiriiska kasoo bixi jirtay iyadu maalinla ah ilaa maantadana soo baxda, article ba iyada lafteedu ka qortay waqtigaasi ardayda yaryar school children in Somalia faces death penalty marka ayaa cinwaankiisu ahaa. marka waxay ku tusinaysay in adduun weynihii wax ka ogaaday wixii lagu hayay dalkan iminka Somaliland la yiraahdo waqtiga ahaa goboladii waqooyi Soomaaliya culays ka saaran. reportkii Amnesty International ee December 1984 reportkii Amnesty International isla sanadkii labaad December 1985 Human Rights Watch report oo waqtigaa isagu soo baxay oo gaarba u ahaa dhacdadaasi ardayda gaar u ahaa ayaa isaguna meesha socday. marka waxaa ku tusinaysa in international community wixii ku baraarugeen xaaladii la ogaaday waxa dalka ka socda. rag isku rayay magaalooyinka Afkooye iyo Muqdisho waxaa aad loogu arkayay dabayaqadii bishii Oktoobar iyo horaantii bishii Noofembar ee gugii 1984 mudanayaasha saddex digle Cawil Cadami Burhaan iyo Macallin Baashe Muuse Maxamed oo ku magac dheera Baashe Diiga. labada wasaaradood ee waxbarashada iyo ciidamada ayaanay ka kala tirsanaayeen. hawlaha ay wadaagi karaan oo la tilmaamo ma muuqdaan, hase yeeshee dareen midaysan oo muujinaya inay ka dhidhiyaan dhalinta dilka lala maagan yahay ayaa u qarsoonaa. waxaase dadkii u qaateen inay soo noolaynayaan xidhiidhkoodii yaraantii iyo ardaynimadoodii ee ay horay u wadaageen. mudane Maxamed Saleebaan oo ahaa wasiirkii warshadaha ee dawladdii Riyaale, sidoo kalena ay walaala ahaayeen korneylkii ugu horreeyay ee ku shahiiday dagaalkii dib u soo celinta Maandeeq, sidoo kalena ay Baashe inaabti ahaayeen, ayaanu ka waraysanay xidhiidhkaasi. waxaanu yidhi Cawil saaxiib bay ahaayeen, xaafad bay ku wada dhasheen, xaafad bay ku wada koreen, laba nin oo asxaabaho isjecel bay ahaayeen weligood iyo cumrigoodba ilaa iyo markii uu kana macallinka ahaa kana uu asluubta galay shaqadoodii ma gashay inta iskuulada ku jireen inta xaafada joogeen Hargeysa joogeen had iyo jeer labadooda laba nin oo wada socdo asxaab bay ahaayeen. xitaa markii dambe ay ma garanaysaa iyagu Ethiopia tageen isnanta ay ku biireen Cawil inan bay walaal ahaayeen toogo loo dhici jiray Allahna xirto iyadana way dhimatay Hargeysa ku dhimatay intii aan Somaliland aan wasiirka ahaa ayaa Hargeysa ugu tagay way dhimatay. laakiin marka ay diyaaradda aftumeen iyagu Ethiopia joogeen
anaa soo dhoofiyey oo ay igu timi Saudi Arabia oo aqalkayga joogtay family friends baanu de ahayn oo maadaama ay baasha iyo cawilna ay saxaab ahaayeen family-guna dad isku koranayo cawil hooyadii iyo xaaskayga ayaa ilmadeerha marka family friends caynkaas ma nahay bishii November 24keedii 1984 ayay hawl sooyaalka ka mudatay in lagu xuso ay fuliyeen saddexda mudane waxaa maragma doonta ah in ay muddo soo qorsheynayeen arrintaasi waxay laba ka mid ah mudanayaashaasi tageen dhinaca madaarkii diyaaradda ee magaalada Muqdisho waxaa madaarka ka duuleysay diyaarad u socotay magaalada Jeddah ee Saudi Arabia waxaanay sii maraysay magaalada Berbera ee imika ka mid ah dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonta duulimaadka iyo baylahda ka jirtay garoonkii diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa ka mid ahaa hawlaha cawil iyo baasha ay in badan baarista ku sameeyeen si aynu haddaba uga war helno arrimahaasi iyo siday ku suurto gashay in hub lala galo madaarka ayaanu wax ka weydiinay duuliye sare Yaasiin Cabdalle Xayeysi oo imika ku sugan cariga Mareykanka waxaanu yiri barihii faqashtu waxaa jirtay in dadka dhoofaya caadiga ah waxay ka geli jireen meeshan weyn ee lasoo maro ee tigidhada iyo baaritaanka iyo waxyaabahaas oo dhan waxaa kaloo jira albaab kaloo bidixda ah ay ka soo galaan dadkan VIP-da ah ama wasiir ha noqdo ama sarkaal ha noqdo ama oo bilaa baaritaan ay xaggaas soo maraan oo aan cid baarto iyo cid kale aysan jirin oo iska dayaaneed security-ga aada u xumaa oo yacni qof kasta uu soo mari karo meesha dadkan madaxda ah iyo maaragtay cidda ay wataan marka taa ayaa keenaysa in qofkii uu ama la soo galo isagoo hub wato ama isagoo wato maaragtay qasnada maaragtay rasaasa ama wuxuu doono marka qofkan kale ilaan caadiga ah tigidkiisi waa laga soo jaray waa lasoo baaray burin baasku soo haystaa marka berigaa waxaa arkaysaa in opportunity-gaas uu ka faa'iidaystay awil uu arkay meesha intuu baaray inuu halka lasoo mari karo wuxuu doono maaragtay marka saas ay ahayd oo berigii aan Mareykanka joogna saraakiisha ugu sareyso meesha joogan ayaan mugta qolada la yiri ka turjuma mid laba qasnadood oo AK-47 shandad yar xaaskiisa ugu soo riday aan lasoo baarno Jarmalka lagu qabtay ilaan islaantiisa maxay ka garanaysaa inuu goboladan tagay inuu dibadda u dhoofay markuu Jarmalka maray oo Mareykanka kusoo socday ayaa Jarmalka lagaga helay rasaastii iyo wixii oo dhan oo dilay aada fara badan ay ku dhacday diyaaradii marka anagu joogna base militariga Lackland Air Force Base yiraahdo Texas ku yaalo San Antonio ayaa waxaa dhacday meesha luqadaha lagu bartay in la yiraahdo nin aynkaas ayaa qasnado wataa Jarmalka nagu soo wareejiyeen oo maxaa meesha ka turjuno marada lama ogolo hub iyo wax inaa u sheegtid haddii kale ay ahayd sidaasoo kale wuxuu la soo maray dhankan VIP-da cid soo baartay malaha saasuu ku yimid ilaa ay Jarmalka ay ku qabteen isagoo laba qasnadood rasaas marka la weydiiyo warkaale qasnadahan waan aragnay yaa qoryihiina xaggee yaa la balansan tahay imisaatihiina oo isagoo xataa luqadna garanaynin waxaa dhacday markii dambe uu noqonaya 6 bilood kadib buu meeshii waxbarashadiina uu keeni waayo inuu laabtay noqoto soo ma dee maalintaasna goobjoogan ku ahaa markii la yarooniyo qasnadihii ilaan ummadda Soomaaliyeed baa iskale qasnadahan qaadma qaadayo sidoo kale in hawl la soo qorsheeyay oo laga soo baaraan degay inay tahay ayay muujinaysaa siday u howlgaleen saddexda mujaahid ee Cawil Cadami Burhaan Baashe Muuse Maxamed Baashe Diig iyo Axmed Maxamed oo ku magac dheeraa Axmed Waraabe dhammaantood Ilaahay ha u naxariistee goormuu diyaaradda dhexdeeda dhaqdhaqaaq fudud yahay ayaanu weydiinay mar kale duuliye Yaasiin Cabdalle Xayeysi waxaanu yiri diyaarad kasta horta waa nooc diyaaradaha cruising speedkooda ama VC-ga diyaarad kastaba waxay leedahay markii ay kacdo waxaa la yidhaha ascent and climb speedkaas ay ku qaadanayso ilaa jogsara ku tegay kadibna waxay galaysaa inay level noqoto oo 4 quwadood diyaaradda isla egyihiin oo marka cruising speedka waa speedka ugu wanaagsan diyaarad kasta company uu sameeyana waxay leedahay cruising speed u gaar oo
shidaalkeeda ay ku dhaqaalaysanayso oo levelka markay noqoto. Marka hadda aragtay diyaaradaha markii ay kacdo ay take off ka samayso abaar ay climb ku jirto, markii level suunka dadka u wada xiran, markaa aragtay inuu leerka baktiyey suunkii iska furay oo layidhi qofka suuligu tegi karaa, maaragtay uu ikraa usu socon karaa. Marka waxay qaadatay diyaaradii cruising speedka. Marka dambana ay degaysana send ay galaysaa oo isku diyaarinaysa inay degto. Marka cruising speedka waa marka ugu wanaagsan ay diyaaradda level tahay oo qofka uu socon karo oo comfortable yahay oo G40-gana uu yar yahay. ilaa waa adoo markii ascent ay tahay climb ku jirto, dee qofkii yaraa waa dhaqaaqaya ama waa isagoo buur koraya, ama markii descent tahayna waa isagoo buurka degaandegaya. marka saasaa loo joojiyaa badanaa dhaqdhaqaaqa diyaaradda oo qofka soonka ha xiraado iyona kacin iyona istaagin. intaa sababtaasaa keenta. badanaa waxaa wanaagsan ba marka qofka diyaaradda saaran yahay inuu soonka u xiraya markastaba. dee bambisay marmar dhaxbaysaa diyaaradii hoosfileynaysa arkaysaa kor u kacayso hoos u kacayso. diyaaradda waxaa duuliye ka ahaa duuliye maxamed xaaji cilmi oo ku magac dheer dhagaxa. markii diyaaraddaasi hawada gashay isbeddel weyn ayaa ku dhacday dareenkii dadweynihii la socday iyo duuliyihii diyaaradda. ha inooga warramo isla duuliyaha laftarkiisa waa mastar dhagaxe sida awooddii hoggaaminta loola wareegay. duunaadkaas wuxuu ka kacay xamar muqdisho, wuxuu u socday jadda, laakiin waxaan sii mari lahayn barbara. marka intaan dhexda soconnayba waa nala afduuba. cirka marka aan garanaysaa cruise level ama marka diyaaraddu meesha ugu sarreysay u socotay oo dhirirka markay gaarto, markaas waay marka uu nala afduubay awli. fiiri markaa nala afduubay waa 84 Soomaaliya afduub lagama og. nin haddana kaaga daranka oo kabtan ah oo labisan, marka ay salaan baa loogu diri jiray waagaas in loo soo dhawaado oo korkiisa la taataabto ama la tuumo. ma jirin, kabtan buu ahaa, waa labisnaa, wuxuu ku maray bikulli ixtiraam. annaga waxaan aragnay 2 bistooladood baan aragnay la sheegay, laakiin 2 bistooladood waa hubaal indhaha saaray. ninkan wuxuu fadhiyey first class oo noo dhow. first class waa wuxuu u dhow yahay cockpit. uu quraacday ayuu soo orday oo aniga la soo aaday. sucaad la yiraahdo oo gabdhaha horjoogta u ah oo diyaaradda ka shaqeynaysay baa ninkan quraacda uu cunay afkiisa waxaa ku soo harsanaa ukun buu cunay, uusan iska tirin. marka way shakiday, ishay la raacday, waxay moodaysay inuu xanuunsan yahay uu suuligu ushay la raacday. mise anigu noo soo gudbay, way ka soo daba orod, way isku duubtay isla markiiba. bistoolad buu la soo baxay, orodkii soo oroday, gabadhii ay isku duubtay baa waxaa soo orday kiisiku. qaylada baan aniga ku soo jeedsaday, maba u qaad dad ismaagay baan mooday. waxaan iska furay suunkii. markaan si wacan aanan u istaagin baa bistooladii buu la soo ka fara baxsaday kulligood. sidaasuu igu soo aadiyey ninkii security-ga, asagay ku dhacday. wiilkii baa dhaawac noqday. marka waa baxeen. hadda qaraxa diyaaradana cirka xoog badan yahay. ana gabashadii aan ka gabanayay maaragtay isha ayaa wax iga gaareen. markaan kursiga ku noqday, gadaashayda ayuu soo fadhiistay, qaylinayay noocan ma inuu wax noo sheego. marka dad la dilaayo maaragtay baan annaga badbaadinaynaa. diyaaradda waxaan u afduubaa badbaadinayo wax saas. afduub markaan maqlay baan gartay inay afduub tahay. wuxuuna naga daadejinayay inuu dad ku badbaadinayo. markaas kadib waxaan bilaabay aniga in aan asaga la macaamilo. mid waxaa jira asagana security-ga, mid waa dhaawacmay, kii kale oon dhaawacmin baa hadba soo gelgelayay. waxaan yidhi ma isticmaali karaa public address-ka? haa buu yidhi. public address-kii baan qabtaa. fajeerkii iyo security-gii iyo dadkii oo dhan baa waxaan u sheegay inay isdhiibaan oo isu dhiibaan diyaaradda afduubay. dhiibaan waxaan dadka u sheegay inay isdejiyaan, aan ku dadaalayno in aan ka saan. markaas buu wuxuu yidhi kocta oo gadaal joogta idinma baahnina iska jooga, hana isdhaqaajinina. kow, gabadha bambada ay hoosteeda taal dhaqdhaqaaqa badan jooji. annagana shakaana galay. marka baasijeerkii iyo security-gii iyo dadkii oo dhan way u
markii loo hogaansamo diyaaradda milkay ayuu wuxuu yidhi cadan ige cadan waa la hadlaysaa markaan tagnay cadan bay cadan naga aan dalkooda ku degno ma gudbi kartid maxaa jira cadan dhibaatada ay qabtay waxaa weeye kabdal soo mariyey oo lasoo afduubay kabtankii baa lagu dilay meesha oo jarmal ahaa marka maalin walbaba midinka magaranaysaa dadkii afduubay dhibay oo midinka maxaa kabtanka loo dilay wax galeen bay noo diideen inaan meesha galno mar alla markay diideen waana aan maqashiyey speakerkan u furay sunniga awil cadami markii uu ogaaday in cadan loo diiday cadan buu noo waday cadan baa waxay gaarsiisay jabuuti addis iyo eedayadoo dhan in dayaarad duuban tahay oo irtifaac ama joog aan haysanaya male jooga iyo socodka oo dhan ninkaana xukuma ku socdo hadii oo dhan baa la yiri ha soo gelinayaan mantiqadaas sidaas ayaa dhacday markaas kadib baa waxay yiraahdeen Jabuuti waa tahay ka shakiyeen Liibiya nigii bay yiraahdeen Liibiya shidaal iguma jiro ayaan ka niri kadib bay soo baxday in Addis Ababa in la aado iyo Addis Migil Addis marka waa inay afduuban tahay cadan baa sheeg sidaas waxaan ku aadnay Addis haddaba dareenka bulshadii ka bixisay muxuu noqday markaasi mar kale ayay weydiimahaasi ka warcelinayaan saddexda aqoon-yahan ee Cabdiraxmaan Cawl Baqdaadi Dr. Maxamed Raabi iyo Booba Yuusuf Ducaale waxaanu markiiba helay nimanka diyaaradda saddex afduubay inay yihiin niman nin ka tirsan ciidankii qalabka siday ee Soomaaliya waqtigaasi oo sarkaal ahaa ayaa madax u ahaa labada nin kalena laba nin oo civilian oo ay saaxiib ahaayeen waxaanu ogaanay markaa in labada diyaaradda ay u afduuban tahay nin ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxa markaa aanu baadidoon u galnay halka awsaka ku haya iyo xaaladdu sida ay tahay waxaanu markiiba ogaanay inay yihiin dad aad iyo aad uga damqaray dhibaatadii cuslayd ee markaas saarnayd ummadda waqooyiga waqtigii hore la odhan jiray Somaliland iyo gobollada dhexe oo markaa iyada laftooda culays xoog leh oo saarnaayo ay waqtigaa xarakadii la odhan jiray SSDF ka dagaalamaysay oo iyadana culays xoog leh saarnaa laakiin xasuuq iyo dhibaato xoog leh oo iyadoo aan cid kale haysani ay ka jirtay gobolladii la odhan jiray gobollada waqooyi ee jamhuuriyadda Somaliland imika markaa niman dalka u dhashay gobolka u dhashay oo ka damqaday dhibaatada iyo xasuuqa iyo waxa lagu hayo ummadda in ay yihiin baa markiiba aanu ogaanay dadna markaa daranka iyagu wuxuu noqday dareen kacsan ujeedooyinka sida uu yahay cidda diyaaradda la socota oo yaa la socday maxay kala yihiin dadku civilian oo dad rakaaba ma niman shilshilisoo culculusoo nimanka ay siyaasadda dee lagu xasuuqaayo ummaddana ay ka go-aanba waxyaalaha markaa dee isweydiinta keenay ee dareenka iyagu aada ugu jeestay xaggaasu ahaa run ahaantii dareemo isku jira ayuu ahaa oo dee kolley xilligaasi horta xilli waxay iska ahayd gobollada waqooyiguba ay ku jiraan sansaan colaadeed iyo dhibaatooyin fara badan ay ka taagnaayeen markaa in way waxaan u arkaynay uun inay salka ku haysay duruufaha markaa ka taagnaa gobolladii markaa la odhan jiray waqooyiga kacdoomada iyo cadaadiska badnina ka taagnaa kacdoomaduna ay ka socdeen markii hore talow maxaa soo bixi doona talow maxaa dhici doona ayuunbaa qof waliba isweydiinayay ilaa iyo markii dambe aanu xaqiiqsanay in sababta iyo muhiimadda ay dalbanayeen nimankii afduubay inamada afduubay diyaaradda ay ahayd in la sii daayo inamadii ardadii loo xidhay dhagax toorkii waa sida aan kuu sheegayo galabtaa gelinkeedii dambe annagoo kalfadhigii koowaad ee caadiga ahaa ee golaha dhexe isnan ku jirna shirweynihii kadib afraad ayaa warku soo dhacay guddoomiyaha telefoonka u kacay uu noo sheegay dabeedna annagu xaalad baanu iska galay murugsan dadka qaar way ku farxeen dad badan oo aan xoogaa lahayn oon garanayn macnaha ay dhacdadu leedahay oo waxay u arkayeen dawlad baa la aftuubay oo dabeedna warkaa gelaya oo dabeedna snm oo xaynkaasa
qaarkayana way ka naxeen oo dabeedna in lagu shaabadeeyo urur argagixisa oo terrorism ah dabeedna waxa dhacday in gudoomiyihii waftigu la socday ay tageen Addis Ababa dabeedna qoladii xafiiska Addis Ababa joogtay Addis Ababa iyadana markaa la oran jiray saldhigga SNM ama xarunta SNM guulalle lagu magacaabi jiray dabeedna inamadii dawladda soo aftuubay oo laba ahaa Cawil iyo Baashe markii dawladda gudaheeda uu mid kale ka raacay Axmed Waraabe oo isaguna reer Hargeysa ahaa ay doonayeen in ay ku baayactamaan inay sheegtaan SNM laba isqaban waayo iyo inamadii oo SNMtii u tagtay tirihana sheeganina iyo inamadii oo de naftooda u soo biimeeyeen dawladda aftuubaan oo SNM sheegtaan iyo SNM oo maamulkeedii Addis Ababa joogay gudoomiyaheedii wixii dhexdhexaadinta ku jiray ay ku yiraahdeen waxna lagu shaabadeynayaa argagixiso ee hana sheeganina tiiba dhibaatooyin la timid aduu laakiin tii mar dambe oo daal badani dhacay ayay ku qanceen siyaasana SNM u sheeganin siyaasana ku galeen liiska argagixisada oo Interpolka lagu ogeysiiyay oo ay u noqdeen dad u calaamadsan Interpolka kaanama sidii waxay Ethiopia jeelasheeda ku jiraan oo kale run ahaantiin raad ayay kaga tagtay Cawil iyo Baashe oo labaduba saameyn ayay ku yeelatay noloshoodii dambe iyo shaki badan oo ku abuurmay waxa kamid ahaa dadka diyaaradda la socday gudoomiyihii gobolkii waqooyi galbeed ee xilligaasi oo la oran jiray Ibrahim Afkaabe waxa maanka Ibrahim Afkaab ku soo maaxanayay inuu Cawil Cadami hawshan u sameeyay inuu isaga laftarkiisa ka arguto dhagar qabe dhulka u dhaqdhaqaaqay wuxuu aad u xasuusan yahay Afkaab wuxuu ku sameeyay Cawil Cadami gugii 1983 ayuu Cawil Cadami ahaa taliyaha ama gudoomiyaha dhalinta kacaanka ee magaalada Hargeysa aad baa Cawil loo amaanay kadib markii uu waxtar fiican u yeeshay dhalintii halkaasi ku jirtay garaadka Ibrahim Afkaab iyo maamulkii afweyne ee uu ka tirsanaa waxa qorshe ahaan ugu taalay inaanay soo dhaweyn qof wax qabta ee mudnaanta la siiyo kuwa guulwadeeya saasi darteed ayuu Ibrahim Afkaab amar ku bixiyay inay muddo 24 saacadood gudahood Cawil Cadami iyo rag kale oo madax ah ku galaan magaalada Muqdisho sidaana ugu biiraan waxay ugu yeeri jireen buulka oo micnaheeda dhabta ahi uu ahaa hana shaqaysan shaqana ku siin mayno oo la maldahayay dushana laga qurxinayay hase yeeshee hadallada Cawil Cadami afkiisa ka soo baxayay maalintaasi aftuubku way ka sareeyeen sidaasi kana xeel dheeraayeen argoosi shakhsi hawlgalkiisuna waa uu ka weynaa mar kale duuliya dhagax hay nooga warramo hadalladii maalintaasi ee mudane Cawil Cadami diyaaraddan abduway gadaasheeda markuu fadhiyay baan waxaan ka codsaday ma quraacanka markaasuu yiri abaar buu fikiray ها meeshaan ninkan diyaaradda inuu soo fuuli doono wasiirka arrimaha dibadda ma soo raacin laakiin wafdigii saaraa danka ma uusan gelin danta markaan dhulka tagnay wuxuu yeelay nin baan dhaawac naga gaaray ayo waxay wuxuu yiri yaafiya uu ka bilaabay ba shaqada uu ka bilaabay min kelmadii ugu horeysay iyo kelmadiisii ugu dambeysay afduubay oo ahayd dad idinkoo kala abaan badbaadinaya buu yiri markii uu afduubay ma wuxuu yiri yaafiya waxaad ugu kala duwan tihiin ma aqaan dadka aan badbaadinayo idinka abay asaga markii inuu anaga loo sheegin laakiin wuxuu bilaabay inuu la macaamilo dibadda sababta waxa weeye alxdiglaha Mareykanka iyo laba professor oo Talyaani ayaa saaraa safiirka Talyaaniga wuxuu shaqeynayay si aan caadi ahayn wuxuu daneynayay labada professor iyo kabtanka alxdiglaha Mareykanka yani nimankan afduubay iyo Talyaaniga iyo dawladda Soomaaliya ayaa wada hadlaysay diyaaradda basal loo afduubay dad baa jiray oo arday inay malaynayo todoba ah anaga waxaan mar kale ayaa adduunkii dhammaan qayliyay waxaana isku raaceen inuu yahay fal argagixisa ah waxaanu afweynayo xukuumaddiisii isa siiyeen inay tahay guul u soo hoyatay waxna yeelaysa ururkii SNM waxay tani noqotay hawl hor leh oo ku soo korodhay dareenkii SNM hase yeeshee dareenka SNM iyo afduubayaashii oo ka sareeyay siduu afweyne guusha isku siiyey ayaa suurtageliyay inay arrintaasi u dhici weydo sidii afweyne rabaye waxaanan arrintaasi wax ka weydiinay Booba Yuusuf Ducaale waxaanu yidhi annagu waxaan kaga gaashaamanay xafiiska sabab dadkii joogay iyo gudoomiyihii naga tagay iyo dadkii dibadaha ka soo hadlayay waxaan yaqaanay markii la isu geeyay horta annaga isku qancinay inay talaabo argagixisan ugu noqon karto oo urur argagixisan laga dhigayo haddii ay namadaas sheegtaan SNM annaguna aqbalno laakiin tii nasiib wanaag waxaan ku guuleysanay intii dawladdu ay sabab taalay ee la wada hadlayay inaan ku qancino inaanay sheeganin
laakiin tii wixii kale ay ku dema baxsan karayno adduunyada kama baxsan karayno argagixisay noqonayeen inaanay SNM u sheegan taana waan ku guulaysanay dowladda Itoobiya nafteeda maadaama dowladda ay soo fadhiisatay ayaa dowladda Itoobiya nafteeda waxay ka cararaysay in iyadana argagixisay lagu shaabadeeyo marka dowladda Itoobiya anagu xumaana sheegin waxaan ku guulaysanay inamadii reer Somaliland jibada iyo kalgacalka SNM waxay ku kalibtay naftooda biimayaan inaan ku qancino inay wax kala sheegtaan laakiin tii aanay marnaba soo hadal qaadin SNM taasina way noo sugtooday annagana badbaadayno noqotay dowladda Itoobiya badbaadayno noqotay codsigii saddexda mujaahid ee adduunweynaha ayuu ilaahay sabab uga dhigay baashinta dilka dhalinyarada sidoo kalena bartay afweyne iyo dowladdiisii inaanay waxba fulin karin hase yeeshee afweyne ardaydii xukunkii dilka inuu ka daayay adduunka wuu u sheegay waana kan Yuusuf Maxamed Ciise oo ku magac dheer Yoonyo oo arrinta iyo arrimo kaleba inooga waramaya waxaan qabaa in ilaahay saddexda mujaahid noo soo diray dilkii dowladii siyaad barre nagu xukuntay 1984 sidaana lagaga jabiyay horta dhagax tuurku goosgoos ayuu ahaa xooggiisuna bilihii u dhaxeeyay February iyo April 1982 ayuu badnaa manaanu joogsan ee ardaydii naga yaryarayd ee naga dambeysay sidii ayuunbay u sii wadeen markiina la xiray laba cisho ayaa laakiin aad aan u xasuustaa aan jecelahayna in ay ku suntan yihiin maalmaha dhexdooda maalin waxa weeyaan waa maalintii u horeysay ee dhagax tuurkuba uu dhacay ee 20 February oo sabti ahayd 1982 oo ah maalintii Allah u naxariistay la dilay Barre Xaaji Cilmi Axmed halkaana Barre uu ku noqday ardaygii ugu horeeyay ee ku dhinta halgankii shacbigu ay wadeen ee gudaha ka dhacay marka Barre wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay ee ku dhinta halgankii dadka shacabkii kacdoonkii ay ka sameeyeen wadanka gudihiisa ayuu noqday marka Barre uu kow ka noqday waxa uu markaa kaluu kow ka noqday markii ugu horeysay ee halgankii gudaha iyo kii dabaduba ay isku xidhmeen arrintaasi halkaasi ayaa markaa taariikhda Barre ay gaar ay Somaliland ku tahay matashaana kacdoonkii ardaydii reer Somaliland ee markaa ka hor tagtay ee la dagaalamaysay taliskii siyaad Barre waxa kaloo maalintaa intay ilaahay ha u naxariistee qowdan oo la odhan jiray Xuseen Cabbaasi Axmed oo isagu macallin ka ahaa shaqo qaran dugsi gacan libaax isaga waxa markaa maalmahaasi ku dhacay rasaas baa ku dhacday dhaawaciina wuu dhintay maalmo kadib waxaa iyaduna jirtay inan yar oo xabad teeraari ay dishay oo iyadana halkaa ku dhimatay maalinta labaad iyaduna ku suntan dhagax tuurkii waxa weeyaan bishii April 14 waa maalintii dugsigii aan ku jiray ee 26 June ay sameeyeen banaanbax weyn oo salmiya oo intay iskuulkii ka soo dhaqaaqeen markaa iyaga oo ereyo liddi ku ahaa dowladii siyaad Barre ku dhawaaqaya cabashooyinkoodana sheegaya laakiin wax qalalaasa iyo wax dhibaato aan wadin sidaa u socday ayaa waxa markiiba hareeraha kaga yimid askartii siyaad Barre militariga kuwii duub casta loo odhan jiray oo wata beebeeyo iyo baabuurtii ciidamada gaashaana waxa markaa dhacday in ayna u aabayeelin ay rasaas ku fureen markaa ay eryadeen qofba meel ka dhacay dabeetana iyaguna ay ciidamadii meel kastaba ardaydii ay ka horqabateeyeen halkaana ay ku qaqabteen arday aada u fara badan oo la xidhay ilaa 80 bay gaadhayeen baan u malaynayaa tiradooda haddii aanay kaba badnaynba oo markaa lagu shubay jeelkii Madheera halkaas oo ay markaa ku xidhnaayeen ilaa iyo 3 bilood
waxa kale oo maalinta April 14 iyadana aan xasuustaa oo ay xabadi ku dhacday oo gacanta midig shanshada ay kaga dhacday Ilyas Qabta Faarax oo markaa aan xasuusto in Ilyas xitaa laga baqay in dhakhtar loo geeyo ama qof kababa loo keeno oo dabeetana uu sidii Ilyas ay dugsatay kuna naafowday. inkastoo aanu ardayda xaalkoodii waxba iska bedelin oo ay weli ku sii jireen qolka dil sugidda muddo badan ayaanu Cabdirasaaq Kooshin aanu wax ka weydiinay arrintaasi waxaanu yidhi diyaaradaas caalamka inoo geysisay walow marka hogaba ay dad badan ay maqleen xarigayaga iyo arday anagoo arday wada ahayn badanka iyagu haddana waqti diyaarada aftuubkeeda fayda wuxuu ballan qaaday inaan la dilayn oo uu dilkii naga joojiyay laakiin waxaan isleeyahay uu khiyaamun buu ahaa iyo been uu sheegay dilkayagiina lagama bedelin waqtigii bay ahayd waqtigaasi November uu leeyahay ma dilayno dilka waanu ka joojinay haddana dhowr iyo 10 bilood oo dambe ayaan ku sii jirnay halka qabta 86 ayaa dilkana loogu bedelay xabsidayn walow 7 mid kamid ah la toogtay oo nuxuun ku soo baxnay xabsidaynna lagaga dhigay maalin walba arbacada ama inta badan arbacadiinan dadkaanu jeelka ku wada jirnay qaybta dilka ama laba la tooganaya ama saddex la tooganaya dhacdadaasi waxay ku dhamaatay guul taariikhda ka gashay baal dahab waxaana aad loogu xusayaa saddexdii mudane ee dhacdadaasi fulinteeda iska xilqaamaya siyaasi darteed ayaanu raadinay inaynu wax ka ogaano sooyaalkooga nololeed waana kan Yuusuf Maxamed Ciise oo ka warcelinaya arrintaasi aqoonta aan markaa u lahaa qodada diyaaradda Baashin Maxamed Baashin Dig loo oran jiray wuxuu aniga ii ahaa macallin buu ii ahaa markii aan dugsiga dhexe dhigan jiray marna wuxuu ii dhigi jiray sayniska marna wuxuu ii dhigi jiray taariikhda ayuu ii dhigi jiray Axmed Waraabana aniga runtii macallin iimuu noqon marka Axmed isaga waa Axmed Xaaji Maxamed Axmed baa la yiraahdaa laakiin dad badan baa Axmed Waraabo yaqaana laakiin wuxuu markaa biyo dhacay macallin buu labada biyo dhacay iyo saraba aniga laakiin waxba jaar baanu ahayn aad u badan baan reerkooda jaar ahayn waxaanay ilaa carruurnimadii saaxiib ahaayeen Axmed Maxamed Ciise la yiraahdo isaga cawil dushuu man ka aqaanay laakiin aqoon dheeraada isagoo ma lahayn caawilna waxaa la yidhaha waa caawil Aadan Burhaan kabtan buu ahaa marka wuxuu kabtan ka ahaa meeshii jeelasha ciidamadii booliiska ee jeelasha ayuu ahaa sidoo kale ayuu Dr. Maxamed Raabi Axmedna weydiintaasi sidan uga warceliyay horta saddexda ninba cawl iyo baashay iyo Axmed ba aqoon kala duwan baan lahaa aqoon guud horta waan wada lahaa dhamaantood waxaan si aad ugu aqoon badnaayo ay aqoonteeda ugu badnayd Allah raxmeeye Axmed Waraaba ninkii la oran jiray oo markii aan anigu shaqadii qaranka wax ka dhigi jiray dugsigii la oran jiray 26 June oo ku beegnayd 1981 isaguna xilliga macalinka ahaa dugsigaasi macallin caadi oo rasmiga wax ka dhigi jiray marka isaga horta xoog ugu aqoon badnaa horta Axmed Xaaji Allah raxmeeye isaga in badan baan la sheekaystay in badan baan sheeka wadaag lahayn nin wuxuu ahaa bashaasha nin wuxuu ahaa kaftan badan nin wuxuu ahaa dacaayad badan wuxuu ahaa nin had iyo jeer bulshaawiye oo dadku ay ku soo hirtaan nin geesinimo badan ay ku jirto oo aan libiqsan ayuu ahaan jiray Allah raxmeeye markii dambe ee uu diyaaradda soo aftuubay run ahaantii intii dambe Janice kumaanaan helin oo isagoo geeriyooday ayaan anigu xaggan SNM-ta iyo xagga imid laakiin wali kuwiikiisa ay ugu soo gaadheen hadaladii uu ku hadli jiray iyo meelihii uu fadhiisan jiray jabaaduhu hadiye jeer marka quracraamaalo kale ay marayaan ee ay dagaalada doonayaan inay abaabulaan xikmadihii iyo kelmadaha halhays u lahaan jiray iyo sidoo dadka u maaweelin jiray iyo waxyaabahaas aan isagana raadkoodii soo gaadhay oo aan ku soo gaadhay laakiin intii aan aqaanay Axmed in Hargeysa ku aqaanay wuxuu ahaa nin aad u bashaasha nin aad u furfuran nin qosol badan nin dabeecad wanaagsan nin geesiyo oo runtii aan cabsidu ay ku yar tahay ayuu ahaa
waxa aan dhiig allah raxme isagana xoog ugu sii bartay markii dambe ee aan kusoo biiray jabhaddii SNM-ta oo aan ku bartay Ethiopia oo isagu markaa kamid ahaa jabhadda baashe waxa aan ku tilmaami karaa aqoonta aan u yeeshan waxay ahayd isaga intii dambe ee aan SNM-ta yimid oo ku beegneed around 1988 ka dabayaaqadiisii ilaa iyo 1990 baan isaga si fiican u bartay horta nin edeb badan buu ahaa baasha allah raxme nin asturan oo afgaaban oo runtii dadku ka nabad galeen ayuu ahaa digin foojignaan fara badan ay ka muuqato oo had iyo jeer taxadir ku jiro oo intaa uu kula sheekeysanayo kulba hareerihiisa dayaya ayuu ahaa isagana intaas ayaan kasii xusuustaa asaamihiisii allah raxme cawl aqoon guudun mooye laakiin aqoon badan oo intaas sii durugsan maan runtii u lahayn sidoo kale Baba Yuusuf Tacaalana waxa uu warcelinta weydiintaasi inoogu daray aqoonta gaarka ah ee uu lahaa saddexdaasi mudane baashe iyo cawl maan aqoonin waa ii aragaas markay meesha yimaadeen bay ahayd waxaan aqaanay ina waraabe Axmed baan aqaanay Axmed markan National Cinema Hargeysa dalcada la koro tukaan halkaas dhexda ku yaalo oday Axmed Dameer la oran jiray lahaa aqal ku xigay ayuu aabahood waraabe deganaan jiray marka Axmed uu naga yaraan Umar waraabaan isnaqaanay oo imika isuulan jooga kaasaan isku gada ahayn waxaan u maleynayaa odayga waraabana inuu darawal ahaan jiray PWD da ka shaqeeya marka Axmed soo yaro caruurna halka waan ku garanayaa markii dambana aad baan u bartay Axmed iyo baashe iyo cawilba waxaan isugu badnayn baashe iyo Axmed ayaan intii dambe SNM-ta ay soo galeen markii ay ka tageen hawshii dawladda duubkeedii dhamaaday joogitaankoodii Diridhabe iyo Harar iyo Jigjiga iyo meelaha jiidaha hore dagaalka waxaan aad u arki jiray baashe iyo Axmed uu yaraa intaanu cawil saragnay laakiin tiisa qudhiisa waan aqaano in badan baan arkay marka aqoontayda hore may aqoon hore uma lahayn labada inan laakiin tii Axmed baan qoys ahaan u garanaya isaguna naga yaraa isla weydiintaasi ayaan hor dhignay Maxamed Taleebaan waxaanu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim baashe wuxuu aanu ahayn ilmaabtaan hay'adda baa dhashay aabihii waxa loo jiray Muuse Maxamed Geedi Allahu naxariisto uu dhintay hooyadiisna waxa loo jiray Dhool Xaaji Maxamed iyana Allahu naxariisto saddex bilood ka hor bay geeriyootay oo ay Hargeysa ku dhimatay kala jooga Hargeysa Cabdi Muuse oo dhakhtar ah oo ay baasho walahayn labadaas kaliya ahayn ilmo Muuse Dayuur baa abahood oran jiray Muuse Maxamed Geedi baashe yaraantiisii wuxuu ahaa nin aad iyo aad u firfircoon Hargeysa iskuul ka dhigan jiray xamar markii aan anigu joogay oo shaqada dalka balcad baan ka shaqayn jiray fasaxyadu uu iimin jiray iskuulka markuu ka baxayna wuxuu galay TTC buu galay macallin buu noqday marka isagoo oo macallin baan anigu dalka ka dhoofay oo aan tegay Saudi Arabia markaan muddo joogay ayuu baashe inuu doonayo inuu dhoofo ii soo sheegay inkaas waan soo dhoofinay 1980 marka uu shaqeeyay airportka sidoo ka shaqeeyay sidoo halka uga shaqeeyay oo dadka shaqeeysta ahaa ee uu halka noola deganaa 1983 bishii May waxa dhintay Xasan Saleebaan oo ahaa korneelkii ugu horeeyay ee SNM ku shahiida oo ay aad iyo aad isu jeclaayeen ilmaabtina ahayn aniga walaalkay isna ba ahaa xaaskaygana xabar wadaag bay ahaayeen Xasan markuu geeriyooday ninka isbedel weyn ba noloshiisa saameeyay oo impact wax ku sameysay geeridii Xasan wuxuu galay inuu shaqada ka tago inuu aamusnaan galo marka wuxuu ugu oran jiray Maxamedow taariikh baan sameynaya waa wax shaqlan oo aan la garanayn taariikhda sida uu sameynayo man garan karaynin taariikh baan sameynaya oo uu had iyo jeer ugu oran jiray waad maqal doontaa taariikh baan sameynaya markii dambe wuxuu yiri waan dhoofiyaa uu dhoofay xamar buti cawil bay sutay cawil xaafad bay ku wada dhasheen xaafad bay ku wada koreen laba nin oo asxaabaho isjecel bay ahaayeen weligood iyo cumrigoodba ilaa iyo markii uu kana macallinka ahaa kana uu asluubta galay inta iskuulada ku jireen inta xaafada joogeen Hargeysa joogeen had iyo jeer laba nin oo wada socdo asxaaba bay ahaayeen baashe taariikh baan sameynaya sidoo noo yiri aan u soo dhoofinay uu aamusay isbedel noloshiisa oo dhan isolation u galay aakhirkii waxa aanu maqalay ninkii diyaarad buu afto 1988 yaani isku kay xigtay oo aan Ethiopia yaan ugu imi magaalada Diridhabe ugu imi muddo yar baan wada joognay markii aanu kala tagnay muddo yar ka bacdina sidii anagoo u kala maqan ayuu dhintay baashe wuu guursaday inan buu dhalay inankiisii
wuxuu joogay inkastoo aanan xaaska uu gabadha uguursaday dhimatay aanan isarag inankii wuxuu joogaa Hargeysa. dhacdada afduubka diyaaradda iyo kacdoonkii ardaydu sameeyeen waxay ahaayeen laba dhacdo oo guul la taaban karo u soo hooyay bulshada reer Somaliland siiba ururkii SNM oo ay kor u qaadeen magaciisii kordhiyeenna xubnihii ku biirayay. haddaba kacdoonkii ardayda oo hoggaanka labada dhacdo ahaa ayaanu weydiinay Dr. Maxamed dareenka xilligaasi iyo ka maanta ee ku gadaaman waxaanu yidhi horta faado de taariikhdu waa wax qormo oo mar bay soo martaa oo mar labaad ma soo noqoto taasi waqti bay ahayd taariikh dhacday bay ahayd taariikh qorantay bay ahayd oo waayaheeda iyo duruufaheeda intaba wadatay xilligaasi dadku siyaabo kala duwan bay u soo dhaweynayeen dadka xilligaasi waqooyiga ku noolaa cabsi iyo cagajuglayn iyo xadhig iyo dil ayaa horta lagula kacayay oo ay maalin wal oo waagu baryaba talow yaa la xili doonaa iyo talow yaa la dili doonaa unbay sheekadu taagneed inamadani dibadda dareenkaasi ayay ka falcelinayeen dadka shacabku waxaan qabaa anigu sidii taasi waa fikir aniga ay gaar ah oo dee dadka badankiisu way wada dareensanaayeen dhibaatadan haysata dadna way soo baxayeen oo dadkaa ku dhiiranayay inay ka gilgishaan bay ahayd dadka qaarkiina waxoogaa cabsi waa kusii jirtay oo de waa isnabayeen laakiin inamadani hormood waxay u noqdeen dhimbiishii horisay in ay maanta Somaliland dib ula soo noqoto xornimadeedii oo ay noqoto dawlad iyadu iskeedu taagan oo Somaliland la yiraahdo inay ridaan nidaamkii iyo rejiimkii markaa jiray oo ay iyagu sabab u ahaayeen anigu taan qabo haddaana iyagu dhaqdhaqaaqaasi iyo inamada dhalinyarada aanay halgan ka bilaabina in ay waqti dheer qaadan lahayd oo ah ka soo dedejisay inuu xukunkaasi dumo SNMna xoog iyo awood badan ay sii yeelato maanta dareenkay dadku ka falcelin lahaayeen waxa uu qabaa inaanu horta dareenkaasi jirinba oo sida aanu sheegay dee taariikhda waxbaa laga bartaayo dib baa loogu noqdaa laakiin dadkeena waxaad moodaa wuxuu marka ay taagan yihiin in laga hadlo ee aan dib loogu noqon oo aan waxba la eegin oo aan la cisayn qofkii dhibtii iyo hawshii iyo karaamadii uu ku lahaa iyo wixii uu usoo maray taariikhaha xilligaa kulba taagan marka inamadani waxay maanta mudan yihiin horta kolley in lagu ixtiraamo wixii ay soo galeen in la ogaado iyagoo oo da-dooda sida aan kuu sheegay aanay 15 jir gaadhin inay ku dhiiradeen inay xabad u bareeraan oo dil lagu xukumay de waxa weeye waxa ku kalifayeen waxay ahayd ummadaada iyo dadkaagan dhibta haysata ka dulqaad itaalka meeshu doona wax ku dhiga ilaahayna tii waa ku guuleeyay oo waa heleen marka horta bal waxa ugu yaray dee la siin karaa inta loo ogaado oo la yiraahdo waa nimayo waad mahadsantihiin oo la xuso dhacdooyinka caynkaas oo kale hadii jeer qoladiina farshaxana aad baan idinka mahad celinayaa sida aad u daba gashaan taariikhda caynkaas oo kale hadii jeer intaasina dhageystayaal waxa ku eegay barnaamijkani dharaarihii tilmaanaa iyo qaybtiisa 22aad oo si gaar ah aanu diiradda ugu saarnay labadaasi dhacdo eenu idinka soo waranay waxaana barnaamijkan aad kala socoteen isla markaana aalaaba aad ka dhageysataan mareegaha farshaxan waana soo diyaarintii baada mareegaha farshaxan isku dubaridkii iyo daadihintii anigoo ah Cabsalaan Cismaan Umar Sheekh Abu Hurayra tan iyo dhageystayaal barnaamijka kan xiga intaynu isugu imanayno hadii ogolaadana waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo iyo nooli kulante wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ma og tahay hoggaanka la eeday ma og tahay hirayda wilayda hadac iyo bardaa laga caagay harad iyo biyaa godobaysan laylaha halaalyadu laysay shimbiraha dhirtii harsan waayey hiihdiya hayayda baxaysa ma og tahay lacaybka la uurshay ooryaha asayda hagoogtay hooyada baroorta laf mooday aalada ilmaha ku hadaaqay dhalashiya hablaha dhaxdi seegay ma og tahay habaarka dhisaalan dhalintiya halyeeyada leeday gacalkiiyo hilbaa isxasuuqay wadhi hoheeyaca kuyeeho habisada dadkayga la saaray haanhaanta loo kala soocay mahuraanka laysku lisaayo hurdankiiyo gabaara gurdayska halaq baa ku raad gadanaya isagaa hubka isugu dhiiba haladada sidaa ku shiraysta dabadeed hamuunta ku reeba isagaa habeeniyo maalin godobtiisa reer huwinaya had bashaar qabiilu tolaya xaajana raggii hoojin laanac odayaasha hoor kuma qoysto wadhi hoheeyaca kuyeeho jugtu waa waxaa la hagaasay wadhi hoheeyaca kuyeeho umalkiyo naftayda hadraysa
hamigiiyo sidaan u tolbeelay hiqdu waa nooladii waayey garabkaygiiba iswada heeray maradeedii bay ugu uraysaa rati heeryadiisa cunaya hungo waa sidaan ahay maanta dhannaheeda iima fayooba himilooy walay gabalkaa dhac telefana ka haaday mooyi calayaho waxaa tahay loo had anigana hadda uu iya faallo halistaa inaan ka afeeftay oo weliba hiifiga gaadhay hagar laawo geli buugga taariikhda aan xilbaabay